kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada waraysi aanu la yeeranayno nin dhalinyaro ah oo waayahan dambe social media aad u haystay Soomaalidu ay ka hadlaysay oo magaciisa la yiraahdo Sufyaan Sheikh Ahmed. Sufyaan iminka waxa uu joogaa stuudiyaheena magaalada Nairobi, aniguna waxaan joogaa boqortooyada Ingiriiska. waxaan wax ka weydiin doonaa barnaamijkan duruucdiisa iyo inta ugu badan aanu ku bixin doonaa insha Allah ta'ala sidaan ka balan inaanu ka hadalno calanka midda uu ka soo hadlayay, laakiin haddana aanan ku celinin wuxuu Sufyaan in badan yiri oo ku celiso wixii aysan noqonin. maxaa yeelay Soomaalida waxay tiraahdaa war la qabo xiisa ma lahan. sidaa awgeed waxaan jecelnahay insha Allah ta'ala inaan Sufyaan soo dhaweyno kana hadalno arrintaas iyo arrimo fara badan oo kale oo la isla dhexyaacay si aanu wax uga ogaano, balse waxaan marka hore rabaa Sufyaan soo dhaweeyo. Sufyaan aad baan kugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol inuu Ilaahay suurto geliyay ugu dambeyntii inaanu is hor fariisano si fiican aad iga aqbashay invitation-kan. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدن وريه فتاح آديات بعضهم هسنتهي ودوهي. Thank you very much. وحقاك أنت أنا الوحكة لو جود الجنين وحن جعلها يدي لها يراهدو أذيك أنا واقوم مرتقال إن هدد لقي يليسد إن أنا نكبر ورب المركه ورا هست علنك سي أن أقدرينه أو ياشين كي أدقى الله ما يحر بدأ يحر مركه وحنا محيطو سارينا هست علنك dabadeedna calanka laftigiisa iyo dadkii u halgamay ayaan salaan u saaraynaa haddaan nahay Soomaali, adiguna waa kugu martiqaadaynaa haddaad diyaar tahay. soo dhawow. waxay ila tahay intaasu inay nooga eg tahay dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa u dagaalamay xornimada Soomaaliya iyo calanka bulubanaya oo kugu marti qaaday inaad u istaagtid ama salaan u saartid ma doonaysid, waana kugu ixtiraamayaa kaagama xumi marti qaado Soomaaliyeed waajib saaran way. Sufyaan inta aanan u guda gelinin qaybta ugu badan oo barnaamijka waxaad iga codsatay dadweynahan u sheegaya waxaad igu tiri ma raba inaan ka hadlo xaasaskayga iyo arrimaha. waxaan kugu iri anigu nin weyn oo dhaqanka Soomaaliyeed wax ka yaqaanaan isku haysta waxa aan ogaga hadlo xaasaskaaga haba yaraatee ama baahi aan u qabno ma jirto. gabdho Soomaaliyeed oo diin ay ka muuqato oo sharaf ka muuqataan arkay kulligood waa salaamaynaa. dhaqanka Soomaalida ayaana ii diidayay iyo maskaxda iyo logiga in aan nin xaaski ka hadlaano xaasi carruur baan leeyahay mana rabo in maaragtay laundrygooda lagu mayro social mediaha kuwaaguna waa kuwaas oo kale marka taas meel haynoo taalo. Sufyaan waxa dhacday in aad waraysiyo fara badan oo kala duwan aad bixisay aadna kaga hadashay noloshaada, laakiin wax yar baad soo koobtay oo noloshaadii ku saabsan inaad ku gobolada dhexe Soomaaliya dabadeedna qaxi aad ka soo tagtay Mareykanka iyo wadamo kale oo ka mid yahay wadanka la yiraahdo Spain inaad wax ku soo baratay iminkana aad dib u soo noqoto Afrika aad joogtay gaar ahaan Kenya. laakiin taariikhdaadu intaas way ka fog tahay waxyaalo fara badanna waa la isla dhex marayaa. waxaana dhacday in aad adiga laftigaagu live soo gashay shalayto dabadeedna eedeymo lagu soo jeeday dul martay. eedeymahaas waxaa ka mid ahaa lagu eedeynaya anigu caddayn ma hayo ma xaqiijin karo kuma eedeyn laakiin wuu kuu soo gudbinayaa inaad adigu Sufyaan Sheikh Ahmedow gacantaada ku dishay wariye Mahdi aadan xasan inaad gacantaada dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Cali Salaad Xange inaad gacantaada adigu ku dishay Cabdi Sheikh Cali
inaad gacanta ku dishay waa sida hadalka loo dhigay maxamed nuur inaad gacantaada adigu hadal ku dishay waa loo dhigay cabdulqaadir cali iidle iyagoo ahaa wariyayaal 4 ka mid ah isku meel aad ku dishay radio muqdisho eedaynta maxaa kaga jawaabaysaa dabcan bismillahi raxmaan raxiim waxaan malaynayaa inaad dhegaysatay live-kii aan xala soo galay waxaan kaloon malaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka dharagsan tahay jawaabteeda waqtigan xaadirka ah arrintaas iyada ahi waxaa laga sugayaa dabcan qofkii keenay inuu caddaynteeda soo daba dhigo arrintaasi aniga dhinacayga sidaan xalaba u yiri wax ka jira male marka waxaad leedahay dabcan xalayto waraysigaagii halkaan uu yisaaniyaa waystay categorically adigu uma aadan denied garaynin oo waxaad tiri waa eedeymo sumcaddayda lagu weerarayo xaqa looga soo horjeedo waa sa hadalka u dhigtay laakiin marnaba maadan oranin anigu waxaan beri ka ahay 5 shakhsi oo la sheegay oo magacyadooda aan kuu sheegay ayaan beri ka ahay hadda fursad ayaad haysataa inta aadan jawaabin waxaan kuu sheegayaa inaan ku daba jiro qoysaskoodii oo aan soo ogaan doono say wax u dhaceen ayagana xogtooda aan soo bandhigi doono kuma lihi waxbaad dishay kuguma eedaynayo caddayn uma hayo meelaad wax ku dishay ma ogi wixii la yiri un baan kuu sheegayaa bulshada ayaa doonaysa inay ogaato soo dhawow wariye fataax waxaad moodaa inaad too obsessed ku tahay barnaamijkan waxa weeyaan anigu nin mutacallim aan ahay waa fahmi karaa angalka aad ka soo gelaysay waxaad iga codsatay inaan waraysi kaa siiyo arrinta calanka arrintan jawaabta kaafiga ay ku dhan tahay waxay tahay inaan ku iri maya arrintaas ma samayn waxaan jeclahay halkaas inaad uga hartid ilaa aad soo heshid caddayn kale laakiin inaad ku celceliso oo aad macnaa wixii hadalkaaga ay ku soo celceliso waxaan ka dhadhaminayaa inaad adigu laftirkaagu eedaynta dhinac ka watid haddii ay sidaas tahay ii sheeg haddaysan ahayn waa kuga jawaabay su-aasha waxaan ku iri maya ma samayn arrintaas halkaasaan uga gudubno midda ku xigta ku soco waa gartay dabcan sida aan ugu soconayo barnaamijkii sida aan u daadihinayo waxaan jeclahay inaad ogaato inaan adiga kaala tashanaynin laakiin kaala tashanaya oo wax kaa weydiinaya waxa aan ogahay mar kale waxaan kuugu celinayaa walaalow anigu kuma eedaynayo meelaad wax ku dishay ma ogeyn nimankaas la sheegaya dhintay ma ogi wixii dadweynuhu ay ka hadlayeen oo qaarkood ay leeyihin caddayn baan u haynaa inaan ku weydiiye keliya un baad iga mudan tahay weli waxaad ku jirtaa arrintii hadda aan kuu sheegay barnaamijka adigaa iska leh laakiin waxa waaye qofka bini aadamka ahi macnaha waxa inaad agitation samayso oo aad isku daydo macnaha wixii inaad dadkii saan iyo dhinac kaga daba gasho waa fahmi karaa waxay tahay macnaheedu waxay tahay marka aan ka gudubno tuduucda su'aalaha aad ii hayso u gudub waxaan ku heshiinaa arrinta calanka iyo astaanta qaranka inaan ka hadalno salaanaa u saartay waxba kaama dhihin ma aaminsani waxaad tiri dadaa usoo dhintay ma aaminsani qof inuu dhintay taasaan galno waa hagaag waa u imaanaynaa calanka waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaadan calanka diiday inaad salaan u saartay oodan sanayn waa ra'yigaaga waa kugu ixtiraamayaan ku yiri anugu muwaadin Soomaaliyeed baan ahay calanka buluuga xidigta dhexda ku leh ayaan aaminsanahay una istaagayaa una sacabinayaa garabkiisana taaganahay tayda waa kugu ixtiraamtayda ugu ixtiraamaysaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxyaalo fara badan oo arrimahan ku saabsan nimankan wariyaasha aan leeyahay waa la jiray waxaad kaloo ku sheegtay su'aali weydii su'aashaad waa kaga jawaaba laakiin nimankan waxaan propagandadii dhinac ka sii wadaa I'm not stupid waa fahmi karaa waxaad ka wadaa listen I don't think you're stupid at all I don't think you're stupid I could be let us make no سؤال توسي ويدي you know you playing to the hands of the enemy macna waxaad ku ciyaaraysaa waxaad subject waxaad ku ciyaaraysaa aniga inaad weli ka qayb qaadato dadkii ku ciyaaray aniga sharafteyda سؤال توسا waa la yaqaan سؤال حد سؤال ويدي ask me question hold on lecturing كوغما إيمان موقتا إنا سؤال ويدزان كوغيمي listen if أنا lecture دتك بوغما إيمان هذا دتك lecture جرين يمر يوحنا كهلاي
markaan waraysigan kaa ogolanay fitaax markaan waraysi kaa ogolanayay waxaan aqaanaa angalka siyaasad ahaan ee ku saabsan calanka ee aad ka soo jeedo waxaan ogahay inaad difaacanaysa calanka waad caddaysa hadda markaad bilaabaysid kanwi ma uga hadli karnaa si civilized ah oo fikirkayga adoo ga dhigsa adoon isku dayin macnaha inaa disrespect igu samaysidoo beenta la wada iyo warka intaad dhinac ka gashay aad tirahdid nimankaan saalin ha ku celcelinin I don't want that because inaa ku celcelisid micnaheedu waxa weeyaan besmirching my name so ha isku dayintaas mana kaa yeelayo haddii su'aal aan calanka ka hadlayno letas waa weydiiyo su'aal waa kaaga jawaaba su'aal kale haddaa qabtid waa kaaga jawaaba laakiin lecturing no fine marka hore waxay ku fiican tahay waxaad tiri educated man baan ahay oo academic ah and I respect that anigu magacaagana kuma ciyaarinin inaan ku ciyaarana diyaar uma ihi waxaan ku weydiinayaa guuxa bulshada oo keliya adna inaad ka jawaabtaan xaq u leedahay haddaadan ka jawaabin waa ka gudbaynaa now waxyaalaha kale ikaad cami waa hadashay oo ku dhageystay awe aqoontii raashadii what is the problem No, the problem is, you know, the problem is have a share صاحب ترتيب حوش الرصع. Problem كله ياي. وح اسكو ديوسا إن عاد أنجل كاغا سياسة دا أنيجا شكله نقصي ديريسي. أو سياس بالي. Ask me questions. معنا مش مو معنا حاجات مستوى كلها لكن أيست. هاي ويدي سؤال سؤالي ويدي. Fine. marka adigu hadlaysay waxa soo qaadanaya waxa adigu tiri waa la yiri iska daa waxa tiri 2 milyan ayaa la ii ballan qaaday inaan qaato oo arinta calanka joojiyo yaa 2 milyan ku ballan qaaday waxay imaanaysaa maalinta oo baaritaankaas uu yimaado ayay imaanaysaa arintaas inaan ka jawaabo hadda ma Soomaaliya ku ballan qaaday hadda ma ka jawaabayo su'aashaas waxaad broadcast-kaaga ku tiri dowladda Soomaaliya agaasimay ii ballan qaaday inay 2 milyan isiiso ma ka noqotay arintaas oo dhan maaha and in fact waxaad samaynaysaa hadda statement oo qalad oo aanan dhihin aniga ma dhihin dowladda Soomaaliya ii ballan qaaday okay maya arintaas waxay ku jirtaa social media qofka u baahan halkaas uu ka dhageysanayaa su'aal haddaad qabtid weydii fine inaad ka jawaabtid ma doonaysid waxaad kaloo ku tiri broadcast-kaaga adigu aad live-ka u soo gashay waxaad tiri waxa ii heshiiyey BBC-da wariyaal ka shaqeeya iyo dowladda Talyaaniga hay'ad u shaqeysa maxaad ku cadeynaysaa wariyaasha BBC-da gaar ahaan kuwa Soomaalidu inay adiga ku cadeynaysaa Fatah waxaan u maleynayaa at least inaad xoogaa leedahay some sort of civilized manners su'aalaha qaarkood waxa la isku weydiiyaa meelaha qaarkood hadda waqtigan xaadirka wixii proof iyo cadayna oo loo baahan yahay ama wax lagu cadeynayo waqtigeedii lama joogo goobteedii lama joogo waxaad igu marti qaaday programkaaga inaad su'aalo i weydiiso not inquisitive maxkamadna ma saarni so please can we move on hore ma uga socon karnaa su'aali weydii fine hore u soconayna adaan ku raacaya okay waxaad ku tiri broadcast-kaaga 230,000 ayay dowladda Mareykanku jaamacad iga bixinaysay maxaad baranaysay oo 250,000 oo u dhiganto 169,000 oo giniga sterlinka today sarif aad ku baranaysay maadada noo sheeg adoo maad mar kale waxaan rabaa waxaad isticmaalaysaa hostile manners you're attacking me معناها معنيهdu ma aha inaan rabin ka jawaab laakiin waxaan rabaa inaan ku dareensiyo inaan fahamsanahay waxaad ka mid tahay ama hadda ii muuqata inaad qayb ka tahay dadka ku faraxsan in aniga magacayga la damage gareeyo su'aalaha aad weydiinayso waa su'aalo investigation waa su'aalo maxkamadeed waa su'aalo baaritaan su'aalo social media ama media looga jawaabo ma aha I'm not under investigation qof baarayo ma laha so kama jawaabayo su'aalahaas waxaan iri waa iri qofkii u baahan baaritaan iyo research markeeday tagaysaa laakiin waxaad ii wacday oo aad ii marti qaaday inaad calanka wax iga weydiiso asagaad aaminsan tahay waxaan ku ogolaada fursaddan isku day inaad difaacdo ha ku wareegin meel kale waa gartay may anu calanka maba difaacay anu waxaan soo bandhigayaa the other side of the argument anigu waxaan ahay neutral laakiin when it comes to the flag I respect that calan 150% waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan jeclahay idil qaado Sufyaano arinta sababtan ku weydiinayo 230,000 dowladda Mareykanku waxay kaaga bixisay waa hadalka adigu u dhigtay
jaamacadda ugu sarreysa ee dunida jaamacadaha dunida ugu sarreeya waxaa ka mid ah Harvard University oo Maraykan ku taala, highly respected, maadada ugu badan $50,000 weeye. Cambridge University, Oxford University, waxaan ka hadlaynaa 12,000 baan ka hadlaynaa. markaan eegay jaamacaddii adigu aad dhiganayso, adigu aad afkaaga iiga sheegtay soo baartay, waxay ii sheegeen maado 230,000 lagu barto inaysan jirin. ujeeddadaan ku weydiinaya saasay ahayd, adig kuma weeraraynin, inaan ku weeraro diyaaruma ihi, inaan ku weeraro igama mudnid, aqoon kuuma lihi, xumaan kuuma qabo, cuqdad kuuma qabo, dhibaato imaada geysanin, laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxa jira. That is how I work, that is how I roll. calankaan aadna مرة لها اللي يصير ورية عبد القادر عمر عبد الله أو ورية خيارة وربعين تكتر سنة واحد وشكت ورئيسي يسي إذن كو إني نان سياسة شغل كلهين أردت صح ميا؟ Absolutely. لكن تخصصك هو سياسة. Yes. نن أو أنتها حيري أقونين أما قلين كدكتور أنا هاي ردتك قلي أقونين ما قلنا هاي إنه قلوك هاجو. waxaan rabaa adigana inaan kula wadaago maadaama hadda aad gashay su'aalihii aan ku ballanay inaan ka wada hadalno. Markaan ku leeyahay siyaasad ahaan ma taageersani group waxay micnaheedu u yahay waddanka Soomaaliya dawladda hadda ka talisa waa taageersana. Dawladda hadda imaan doontana waa taageerina. tii hore u jirtana waa taageerina. xisbi siyaasadeed oo gooniya ma taageerno noocu rababa haade ama ha ahaado mid oo aan islaamiga ahayn ama mid islaamiga ha ahaado. Yes, takhasuskayga waa siyaasadda. waxaan soo bartay political science, international relations, political theory, political psychology and political philosophy, Spanish languages for majors and English. takhasuskayga kaas weeye. marka aniga waddanka suu yahay wuu yahay. waddanka waxaa u taliya dadkaas ayaan hadda ku raacsanahay. bulshada Soomaaliyeed ayaa soo dooratay. haddii ay yihiin ninaan waxba aqoonin oo aan hogaaminaya iyo haddayna hogaami karaan iyagaa taas shacabka Soomaaliyeed ayaa doortay. واقرتك actually سؤاشيدو ما أهين سفيانو ما أهين دولة المتغير سنتا إيه مكسور جدا. I'm not interested in دولة جدا. سؤاشك هو يدي واحد تري علنك واحد تري سياسة أنا وشغل كمالهم هذا تخصص كي جوا سياسة dadku waxay isweydiin karaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo loo hanwen yahay oo dhalinyarada dadkiisa iyo dalkiisa aqoontii uu dibadda ku soo bartay dib ugu soo celiyay maadadii uu soo bartay oo baahi loo qabo ana aan ka hadlaynin dee adar in laga garnaqay mudanta. Absolutely. waxaan ku sheegayaa sababta aan macnaha siyaasaddu waxaan rabaa wariye Fataax inaad fahamto siyaasadda marka laga hadlayo ama la leeyahay politics waxa la yiraahdo waxay leedahay variations oo kala duwan ay leedahay. Number 1, governing policy ama siyaasadda waddanka lagu dhaqayo dadka maamulka markaas ay sameeyaan ama isticmaalaan waxa noo haya dad aan dooranay oo Soomaali ay dooratay oo lagu heshiiyey nooc ay rabaan baa ahaade. waxay ku dhaqmaan iyo qaabkay u dhaqmaani waa qabiil waa wadognahay ma aha politics. aniga marka haddii aan maanta engage kareeyo political situations of my country waddankayga waxaan laga yaabaa inaan ku noqdo carqalad habu socodka habu wanaagu socodka waddanka Soomaaliya. waqtigaygii lama joogo, maalinta waqtigayga la yimaado waa gelaya. laakiin waxaan hadda ku jira shaqo kaleeto oo ayadu laftirkeedu dan muhiim ah ay ugu jirto waddanka oo ah in la bedelo astaanta qaranka, calaamadda kirishtaanka ay ku jirto, la bedelo calanka buluuga oo anagu aanan samaynin, la bedelo waxa la yiraahdo haybta korka, la bedelo ama dib loo qoro taariikhdii Soomaaliyeed. shaqada aan ku jirno hadda aniga iyo kooxda talo ku noolba waa midaas ayada aan ku qanacsanahay. waxaan aaminsanahay waddankeena Soomaaliyeed inay u tahay wax muhiim ah. kooxdan talo ku nool adigu gudoomiyaha u tahay meeqa qof baa ka koobantiin dad magac loo bulshada taqaano oo ku jira ma jiraan loo sheegi kartid? mudane Fataax waxaan leenahay waxa la dhaho political strategy. Political strategy means markaan arrintan bilaabaynay waxaan degsanay qaacido. maanta waxaa ku muuqata social media in iska daba dhac ay u soo dhacayso eedeymaha la isoo jeedinayo oo beena sixroole weeye waa gaal wasranka soo dirsaday dadoo yaqaan ku jiro magaca ay su'aashaan rabaa inaan kaaga jawaabo aan dhamay su'aashaan kaaga jawaabo ilaa la yiraahdo waa nin dilaa oo dad u soo dilay.
arrintaas waxaan ogeyn inay imaanayso sidaas daraaddeed ayaan waxaan leenahay mar kasta oo xaaladdu ay taagan tahay hal qof central committee ama guddiga dhexe hal qof baa bannaanka jooga inta kalena waxay joogaan gudaha bannaanka ma imaanayaan ilaa qofkaas uu meesha ka baxo ama loo baahdo xaaladdu isbedesho siyaasaddeena saasa sidaasaad aniga ugu jeedaa xubnaha kaleeto tiradoodu waa 28 central committee xubno kaleeto waa jiraan tala ku noola laakiin kama mid aha central committee waa gartay waxaad ka hadlaysaan ma ahan team yara oo dan gaara ma aha dadkan aad ka hadlaysid sidaan u fahmay hadalkaaga iyo waraysiyaadana ka dhuuxay waxay tahay inaad ummadda Soomaaliyeed iyo calankeeda badbaadisaan oo kana loo keenay aad bedeshaan waa sa hadalka u dhigtay dadka doonaya inay waxa sameeyaan oo ummad masiirkeeda ka hadlaya dhowr iyo 20 ba ha ahaadaan mararka qaarkood tayada iyo dadka yaraantooda iyo badnaantooda fiican dad yar oo wax qaban kara ka fiican waa soo dhaweynaa inay yartiin laakiin maadaama dantii guud aad ka hadlaysaan maxay ku dhacdeen ama hal qof oo kamid ah magacooda noo sheegi karinin oo ummadda Soomaaliyeed ay taqaano ixtiraam u hayso miisaal baan ku siinayaa waxaa jira nin la yiraahdo professor Cabdi Ismaaciil Samatar Soomaalidu waa taqaanaa iyo mowqifkiisa waxay Soomaalidu taqaanaa professor Xuseen Warsame Soomaalidu waxay taqaanaa Abraar Yusra Abraar Soomaalidu waxay kaloo taqaanaa professor Cabdiqaadir Shirwac Dr. Abdullah Mansour these are credible Soomaalidu dalay taqaano hal qof oo Soomaalidu ay taqaano noo sheegi kartaa ma jira aan niraahdo war meeshaan odayaal baa yimid aqoonyahan baa yimid ikhyaar baa timid bal magac noo sheeg mar kale aan kugu celiyo adigoo mahadsan su'aashii aad markii hore weydiisaan kugu celinayaa therefore jawaabtii aan ku sii markii hore kugu celinayaa annaga policy-geenu ayaa sidaas ah sababta aan u samaynayna saasna waxay tahay safety professoradaas aad sheegtay dhammaantood Soomaalidu waa taqaana of course laakiin ma ku jiraan shaqadoodana ma aysan diyaarsan ama uma aysan istaagin in ay qabtaan in ay bedelaan fundamentalists of the country asaaska ama baseka waddanku ku fadhiyo inay bedelaan in calanka Soomaaliya la bedelo in astaanta qaranka la bedelo in haybta koorka la bedelo in dastuurka islaamka la qaato waa shaqo aad u culus waxaanan ognahay in aan wajahayno cadow fara badan oo dad fara badan maanta ay bannaanka joogaan oo cadow aan leenahay therefore waa one person at a time halkii mar waxaan iska geli karnaa hal qof because dadkani waa dad academiga waa dad wax soo bartay research inta sameeyeen lama rabo wixii ay soo barteen in hal mar ay baabaan waayo waxa dhici karta cadawgu in uu keeno in hal mar dhibaato ay nagu wada timaado sidaa daraaddeed hal qof waa riskiga qaadanaya hadda aniga ah ninka gudoomiyaha afayeenka ayaa markasta riskiga qaata maalintaan anuu ka baxo ama taydii ii timaado macnaha kama bixi kare ama taydii ay ii timaado maalintaas nin kala imaan doona sidaas ayaad ku arki doontaa haddii aan yiraahdo policy-geena saasa mana sheegayn waa gartay waxaa xusid mudan inaad tiri maaragtay amnigeena ayaan u baqanaynaa waxaa xusid mudan inaad Nairobi joogtid oo islii aad motorbike-yada aad raacdid iyo taksiyada dadku ay raacaan aadan amnigaaga u baqanayn laakiin dad kale aad qaranaysid waanu ka gudbaynaa dadweynaha u daynaynaa go'aan ay ka qaataan arrinta ayada anagu ku xukumi mayna dabcan waa ku weydiiye waana ka jawaabtay mahadsanid inaad diidinna xaq baa u leedahay haddii aanu arrintaa ka sii soconno ka tagno arrinta calanka aanu u gudubno waxaad tiri heesta calanka markaad ka sheekeynayso waxaad tiri waxaa ku jira erayaal shirki ah ayaa ku jira ayaa tiri adoo soo koobaya bal 2 eray ama 3 eray oo shirki ah noo sheeg aan kaa dhegeysanay waxaan rabaa marka hore aad baa u mahadsan tahay su'aalihii aan diyaarka u ahaa hadda bilowday waa thank you very much waxaan rabaa marka hore shacabka Soomaaliyeed in la wadaago horta heesta marka ugu horeysa ninka ku luqeeyay iyo ninka alifay labaduba waxay ahaayeen niman uu soo tababartay gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaaniga ninka ku luqeeyay Cabdullaahi Qarsho wuxuu ku dhashay Tanzania gobolka la dhaho Kilimanjaro cadan ayaa lagu soo tababaray Soomaaliya wuxuu soo galay asagoo 20 jira wuxuu la socday gumaysiga ninka kalena wuxuu ahaa sidaas oo kale nin gumaysiga uu soo tababartay ereyada marka ku jira ee shirkiga ahi waxay tahay in la yiraahdo xidig yahay cadi waad na ciidamisay ama xidig yahay waad na ciidamisay ama noo ciidamisay waa labaduba waa shirki waxa kale ku jira in la yiraahdo shirki ku yihiin waxaan ku wada hadlaynaa luqadda Soomaaliga in la yiraahdo wax anagu gacanteena aan ku samaysanay sida la sheegayo ama gacan qof bini'aadani ay samaysay in la yiraahdo waad noo ciidamisay ama waad na caawisay
oo la yiraahdo caway dhaha shirki weeye qof kasta oo luqadda Soomaaliga ku hadla sidaas u fahmi kara haddii laakiin waa shirki weeye okay waxaan rabnaa inaan dul istaagno arrimahan because dhowr jeer baad soo celcelisay absolutely haddii aad tiraahdid waxa gacantaada ku samaysay baa ku ciidamiyey ama lagu keenay wax kasta oo markaa sidaas oo kala ah oo lagu keenay ama gacantaada ku samaysay oo ku ciidamiya waa shirki haddaad isticmaashid sax haddii aad bariso haddii aad tiraahdo adaan ku baryaynaa waa shirki ama aad u qirto in uu ku caawiyey aad u qirto in uu cudurkii iyo dhibaatadii kaa qaaday haddaad u qirto oo qiritaankaas aad muujiso shirki weeye waxaa iskale allah subxaanahu wa tacaala keligiisa iskale taas waa imaanaa dhinaca caafimaadka ku taabatay oo caafimaadkii waxa ku saabsan waa imaanaynaa awoodo waxaa jira ilaahay uu leeyahay aanu cidna lala wadaajin karinin waa ku waafaqsanahay laakiin adigu hadda waxaad ka hadlaysaa aalad internet baad ka hadlaysaa internetkaas wuxuu sahlay aniga adigaba inuu na caawiyo laakiin midkeenna caamaayo marka waxaan rabaa inaa ii sheegtid hal qof oo Soomaali ah oo adigu aad taqaanid hadda waa shakhsi qura waxaa la yidhahdaa waa 20 milyan waa 12 milyan waa 30 milyan I would like to say we are 100 million because that way agree oo ku raacsanaa taas 100 milyan baan nahay 200 milyan baan nahay waxyaalo badan oo kale waa igu raaci doontaa waad soo socotaa waa kuu jeedahay soo dhawow Soomaali baan waan qaa sida Soomaali loo marti soore waxaa kaloo jira haddii wax macquul ah waa ku raacaya of course sidoo kale wixii macquul ah oo caqligu qaadan karo ama daliil diineed ah gacmaha ugu taagaya anigana sidaas oo kale aan ku sii socono isku meel baan wuxuu wadnaa sida reer Mudug iskula dhuuqaynaa dhib ma lahan insha Allah waxaa jira waxaad ii sheegtaa hal meel oo qura oo Soomaali joogo oo xidig caabuday ama uu sujuuday ama macbud loo dhisay oo taqaanid noo sheeg okay waxaan ku xusuusinayaa waddanka Soomaaliya marka calanka la saarayo galabtii subaxii la saarayo ama galabtii la dejinayo waa loo istaagaa haddaadan u istaagin ganaax baa tahay oo lagu xirayaa markaad calanka la saarayo sidaad hadda adigu samaynaysay waa inaad adigu hadda salaanaa saarta laakiin xabadkaa gacanta lagu qabsada calanka Soomaaliya marka la saarayo waa cibaado inaad u istaagto calanka oo u khushuucdo waa cibaado Allah iskale qof kale looma istaago waxaad ii sheegtaa marka waddan islaam ah dambi aysan ahayn waqtiga salaada la adimayo ama masaajidka loo socdo dadka inaan lagu ciqaabin oo qofku uu xor yahay markuu rabaadi karo calanka waqtiga la saarayana haddii aad dhaqdhaqaaqdo ama aadan xabadka gacanta saarin xabsi iyo ganaax aad tahay oo aad ogtaa nidaamkaas inuu u yaallo haddii aysan taasi ahayn caabuditaan la caabudaya calanka iyo xidigta dan luqadda Soomaaliga ku waa hagaag waxaan rabaa meeshay diinta kaga taalo calankoo loo istaagay inay caabuditaan tayna daliilkaa noo sheegtid daliilka diinigana waxaa la yidhahdaa laba meel buu ka yimaadaa دين وحال هذا ما شرع الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قرآن إيه سنة آيات أما حديث نوشك لو استاغ عالم كان ممنوع يعني كان يسمي يا شيخ وما سنتهي مركلته وحاجرتا إسلامكو وحوليها قاعدة برورة ووين وبلارن ولي وح عن الله سبحانه وتعالى أهين إن قفوا أصمي التواضع أما يسد الليو دين إسلام كابنيسي waxaan rajaynayaa maanta inaad weydiinayno su'aasha meesha ay ku taalo taas in diinta islaamka waxaan warkaa inaad tanin islaamo xushmaynaya diinta islaamka in loo istaago oo khushuuc loo sameeyo loo hogto wax aan ahayn Allah subhanahu wa ta'ala in xabadka inta gacanta loo saaro loo aamuso loo hogto aan la dhaqdhaqaaqin haddaad gudubtid lagu xirayo xabsina lagu geynayo fine laga qaadayo wax aan Allah subhanahu wa ta'ala ma laha arrintaas iyada ma u malaynayo in shaki kaaga jiro hadduu shaki kaaga jiro marka oo aad tiraahdo wali ii sii cadee oo intaas aadan ku qancinin waxaan samaynaynaa inaan ku soo diro adilooyinkii ayagoo badan researchku macnaha baaritaan mu baahan aan ku sameeyo waxaad kaloo awood u leedahay in aad weydiiso qofka kuugu dhow ee diinta islaamka yaqaana haddaad adigu aad inkirsan tahay okay I'll put you on the spot halkan waxa ii yaala laptop internet ku xiran ii sheeg meeshay ku jirto oo Google garaynaa helina marka su'aasha dib aan kugu soo celinaa waxaad leedahay hadda adoo islaama in
loo istaago Sufyaan 3 minute baa hadda soo dhageystay mar haddii ugu diido waxaan kuu soo dirayaa researchkii baan kuu soo dirayaa I have the resources online haddaan hayaa adoo fadhiyaan akhrinaynaa waxa ka soo baxaan arkaynaa ii sheeg meeshay ku qoran tahay calankoo loo istaagaa waa shirki diinta islaamka fadlan waxaa la rabaa qofka biniaadamka markuu wax diido in maya haddaad iga diido lama su-aasha koortaale waxa weeyaan haddaad tiraahdo in wax loo istaago ama tawaaduc loo sameeyo ilaahay waxaan ahaynay u bannaan tahay haddaad tidhaahdid waa kuu sheegayaa afkaaga aan ka qaado hadda idheh waxaan in tawaaduc loo sameeyo allah wax ka soo haray waa bannaan tahay idhahdii waxaanan isku raacnaa aniga adiga waxaa wax qof walba oo soomaaliya uu qirsan yahay in calanka soomaaliya loo istaago loo hogto aan la dhaqaaqi karin marka la saarayo marka la dhigayo loo heeso intaas dhan isku warna marka heesiis la qaadayo haddaad dhaqaaqdo ama meel kale aado waxaa tahay ganaaxaad diin dhan oo xiran weligeed waxaad ii sheegtay waxa dowladda markaa jirta ay samayso anigu kuma weydiinin dowladdu maxay samaysaa dadka ma xirtaa qofkii calanka u istaagi waaya waxaa kuma weydiinin anigu dowladdu waxay samaysay diin uma aqaano waxaan diin u aqaanaa wixii ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey baan diin u aqaanaa sallallahu alayhi wasallam waa waxa loo yaqaano usulu diin asaaska diintu waa quraanka iyo xadiiska sheekh baa yiri iyo wadaad carab ah qoray iyo wadaad Pakistan jooga fadwo soo saaray waxaan uma dhageysto now waxaan rabaa inaan mar kale ku weydiiyo waxaa tiri waa hayaa inay mamnuuc tahay calanka in loo istaago islaamka beeniyey waxaan ku iri walaalo waxaad ii sheegtaa meeshay ku qoran tahay waa kuu soo dirayaa baa tiri haddaad ii soo diraysi waad og tahay fadlan ii sheeg waa google garaynayaa dadkana daawanaya ayaan la wadaagayaa haddii aadan haynin waa ka gudbaynaa mawduucan qaybtiisa kale u gudbaynaa calanka shirkiga ku saabsan waxaa dhacday hadda ka hor taariikhda islaamka waxaa dhacay yuusuf calayhi salaam waa tii god lagu riday berisamaadkii aabihii yacquub ayuu u soo noqday oo nebi ah muxuu yacquub sameeyey adigaa noo bilaabay wad yacquub wiilkiisii ma u sujuudin mise uma sujuudin haye de waxaan ku weydiinaya adaan ku weydiinaya ma arrintaa ma ka warqabtaa nacam in aayada qur-aanka ku taal nebigiisa inay u sujuudeen ha markay u sujuudeen ma sujuuddaasu ma cibaaday ahayd mise waxay ahayd karaamo iyo sharaf lagu karaamaynayo marka waxaad rabtaa inaad tidhaahdid sujuuddii loo sujuuday maya waxaad samaynaysaa waxa red herring sujuuddii loo sujuuday nebi yuusuf ay u sujuudeen wixii aayaddii 11 kowkab ay u sujuudeen walaalihiis iyo aabihiis iyo hooyadiis ma waxaad rabtaa inaad haddana tiraahdo waxay bannaynaysaa taasi inaan qof bini'aadan u sujuudno ama calan u sujuudno is that what you gonna say markaan waraysigaan ku ballannay waxaad igu tiri xaasaskayga waxba igama weydiin karti waa kaa yeelay adigu su-aal ima weydiin karti anaa su-aasha ku weydiinaya waa loo sujuuday waxaan rabaa waxay tahay su-aasha waxaan ku weydiinaya waxay tahay mararka qaarkood dadku waxay sameeyaan wax cibaado u eg laakiin cibaado aan loola jeedinin therefore xadiiska u dambeeya fi saxiix albukhaari waxa uu leeyahay ee cumar ibn khataab laga warinayo إنما الأعمال حديثك أوريا إنما الأعمال بالنيات هدي أنا وحد أذكر إلى جوجا وجهي نورك عندك أذكر عابدي ماي لكن وحبادو بسميه ناو قفك الصومالي مركو علن كو يستاغو وقدرين علن كو مرو وحكومة تاري كرو وحكومة سين كرو وحكامة علين كرو بل رب كامة علين كرو مركا دادك الصومالي عقلي قوض إنا كو عيارتو تلالين مرة عابدو يسان قف بيكو تاي and that is why I give you comparison. Go ahead. Okay. No, so let me say this. And I hope in other judgment you samaynin because nin reporter judgment waa ka mamnuucanta because opinion manifestation waxa iskale qof kula doodaya adiga mali and therefore samaynin mar dambe hadin waa ku qaldan maya manifestation of opinion ma samay karti maya haddaad tiraahdo waa qaldan tahay laba nin oo doodaya noqonayna wariyamihin markaas fine
laakiin waxaad wixii saxa waa kaa qaadanaya wixii khaladana kaama qaadanayo anigu waxaan ku hadlayaa codka shacabka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inaad khaldan tahay intaan la hadlay macnaha waxaad igu tiraahdaa marka difference ku samee waxaad tiraahdaa dad baa aaminsan inaad khaldan tahay laakiin adigu haddaad tirahdid straight forward waa khaldan tahay haddaad tirahdid micnaheedu waxa weeye opinionkaaga aad qiyaasaysaa marka waxay noqonaysaa inaad wariyihii title-kiisa iska dhigtay oo aan doodayno markaas waana waa saxsan tahay boqolkiiba boqol baa ku saxsan tahay pointigaas haddana aan galno marka pointiga marka aan galno nabi yuusuf sujuudda nabi yuusuf ma cibaado yahay sujuudda nabi yuusuf oo u sujuuday loo sujuuday micnaheedu waxay ahayd waa waqtigaas diintaas iyo kitaabkaas jiray kitaabkan kitaab ka duwan waa salaadaha waa og tahay cibaadadu say ahayd ramadaanka inta la soomi jiray waqtigaas cibaadada macnaha allah subxaanahu wa tacaala qoom walba kitaab uu soo dejiyey annaga nabi yuusuf kitaabkii loo soo dejiyey noloma soo dejin diintii nabi yuusuf waqtigeedii taalay ma aha diintani waa diin macnaha ayadii ka ballaaran ama allah subxaanahu wa tacaala because qoomkiisa u yaqaanay uu wax ka bedelay therefore comparison kuma samay kartid nabi yuusuf sujuudii loo sujuuday iyo maanta calanka in loo sujuuday inaysan dembi ahayn kuma samay kartid waxaana ku faraxsanahay inaad ila qaadatay maadaama comparison aa keentay inaad ila qaadatay in dadka Soomaalida ahi calanka ay sujuudaan because haddaadan aaminsanayn inay saas tahay ma aada keentay comparison waana ku maasantahay ku saxa saaxiib anaan ku saxa daruuri waaye anigu ma aaminsanin dadka Soomaalida inay calanka ay caabudaan waxaan aaminsanahay ogahay inay alla kaliya caabudaan calankuna mara yara uu yahay qof kale calan baa la caabudaa iyo shirki baad ku jirtaan oo fikirkan cusub oo aan astaan aan sumada lahayn wato waa adiguna ku gaar yahay statement aanan samaynin haddaad saysid waa inaan ku celiyo aniga ma dhihin haddaan ku celiyo waxaan idhi waa record garaysan yihiin haddaan ku celiyo dadka Soomaalida ayaa shaydaan caabuda ama calanka caabuda ma dhihin waxaan idhi dadka Soomaalida waa islaam boqolkiiba boqol waa dad ahlu cibaada laakiin waxaa nugu siray talyaanigii waxaa noo qoran hees cibaado ah calanka in loo hogtaana waa dembi waa cibaado micnaheeda marka waxaan rabaa inaad kala saartid Soomaaliya calanka caabuda iyo calankani waa calan aan Soomaali samayn waa calan cawaalo uusan samayn waa calan astaan shaydaana talyaaniga noo keenay calaamada diinooda ku jira heesta loo sameeyaana waa hees cibaada that means micnaheeda taad ma aha Soomaalida calanka caabuda ama Soomaalida shaydaan caabuda ma aanan dhihin aniga okay let me just code you one more time okay waxaad tiri heesta calanka ee Soomaalidu qaado waa loo istaagaa waana cibaado ma igu tiri mise iguma aadan loo istaagaa calanka absolutely hase yeeshee day waxaa kala duwan no correction waxaa kala duwan let me finish then you can correct because waa ku dhageystay give me some respect waa ku dhageystay waa ka aamusa i dhageyso absolutely go ahead waxaad tiri calanka oo loo istaagaa waa cibaado waa shirki Soomaalidu markay si kala ma kugu dhigayaaba anigu hadda markii calanka la saaro waa istaagaa calanna waa saaraa laabtana waa qabsadaa inkastoo hadda aan qabsanin waana ku faraxsanahay qabsado berrina waa qabsan doonaa in you eyes adiga markaad aragtid Cabdixafiin Maxamuud Jaamac oo taagan oo calankii la saarayo oo xaadiisa meel walba ay istaagtay qiiro uu qiiroonayo dhiigii loo soo daashay calankan iyo ciidan iyo dhulkan sharafta badan ma waxaan ahay qof mushrik ah oo calanka caabudaya mise waxaan ahay qof muslim ah sidee u aragtaa qofka marka uu istaago calanka uu istaago u hogto heestaas qaado uusan dhaqaaqin waa qof qaldan oo la siray waana waxa reer tala ku nool aan u taagannahay inaan saxno cibaadada qofka inaan calanka la caabudin dadka Soomaalida way ogyihiin laakiin waxay ugu jiraan si aysan fahamsanayn fahamkaas ayaan rabnaa inaan saxno judgmentigeena haddaan reetal ku noolnahay ma aha dadka Soomaalida waa gaalo waa mushrikiin calanka caabudaan ma dhahayno waxaan dhahaynaa dadka Soomaalida waa la siray waxaan waa naloo qariyay aan saxno waxaan rabaa mid kale inaan ku sheego calanka Soomaaliya maantay aan haysano hal dhibic oo dhiiga looma daadin hal person uma dhimanin damage looma dhicin waa garto waa maarina u soo soconaa very good you see what you did right there you play with the words
لكن الحمد لله الصومالي إنه لو قاعد كرمه luqadan ingiriisku waa professor ku tahayna baryaan baalal ka jeexday oo I'm doing well so far dukaamada waxaa ka iibsan karaa and no problem waxaa tiri heesta calanka waxaa ku jira ereya shirki ah laakiin dadka Soomaaliyeed oo qaadaya shirki kuma jiraan waa khaldan yihiin hadday khaldan yihiin khaladka ka dhaca iyo shirkigu waa laba shay oo kala duwan haddii qofku uu khalad ka dhaco suuratu al-baqara waxaa ku jirta rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na luqadda carabiga waa taqaanataan ka dhageystay waxaa jira waxa loo khata dhaca iyo mukhti oo ulakas ah laba wax kala fog weey su'aashan ku weydiiyay waxay ahayd haddii calanka Soomaaliya la saaro oo aniga iyo dadka Soomaaliyeed oo daawanaya aan soo istaagno marka la saaro oo aan laabta qabsano oo ilmadu naga qubato oo xaaduna istaagto oo gacmaha iswada qabsano waxa aan sameynayna ma cibaada oo ilaahay ma noogu caroonaya mise nooguma caroonayo yes or no igu dhamid karti waxa ku xugminaya oo kala saaraya Allah subhanahu wa ta'ala marka uu quraanka soo dejiyay wuxuu yiri afallahu amma salaf qofka dambiga marka uu xaq ogaado oo uu fahmo hadii uu ku celiyo kadib dambiga markaas uu leeyahay qofka Soomaaliga maanta marka og waxaani waxay yihiin u tagay culimada baaritaan sameeyay loo sheegay because waxaan hubaa qof caalima maanta oo diinta islaamka yaqaan marka aad u tagto tiraadid in calanka loo istaago xabadka gacanta loo saaro loo hogto ma dambiya ma u malaynayo qof Soomaali inuu ku dhahay dambi ma oo caalim oo shiiqa ama qof aqli leh ma u malaynayo ku dhahay waliba heestan la qaaday marka la akhriyo ma ku dhahay markaad ogaato kadib afalahu amma salaf laakiin markaas kadib tilaabadaad qaadid waxaad ku jirtaa dambi وكا that's point يا راديناي عفى الله عما سلف سفي عما وقرناي waxay tahay macnaheeda laakiin waxaan ka rabaa point aan rabo inaan ku weydiiyo waxa uu yahay hadii la ii sheegay culimada waaweyn oo hadda Soomaalida waxa kamid ah anigu shakhsiyan ixtiraamka oo ay bulshaduna ay si fiican u ixtiraamto adiga kuma ogi sad waxa cid sheekh ku ah iyo cid diinta ku soo bartay adaa loo sheegi doona الشيخ مصطفى حاج إسماعيل واحد من الخيار حدون نكاس دمناه كلا قاضو قلبي أقول كل دقيقة صوبته كل دقيقة وحاول وحكى الله وواحد قلبي أقوله هذا من سنتين الشيخ محمد درر الله نحرسته أن علماء كلا الشيخ محمد درر ولي وأنا ولي حكى وذا الشيخ عمر فاروق قدم أنا قلت الله نحرسته وحكى له جو صاحب القرآن العظيم الشيخ عبد الرشيد علي صوفي dadkaas aad arkaysid waa culummo haddii inta noo yimaadaan ay dhahaan war calanka aad u istaagaysaan waa khalad oo markaa kadib aan u istaagno adiga Abu Sufyaan ahaan aqoontaada diinta markaa kaashatid iyo tan maadiga waxaan ogahay in diimo fara badan lagu soo baray saad adigu afkaaga iga sheegtay in kasta oo aan akhriyo in diinta cinda Allah al-Islam kuwa kale oo u tagi doona fi suurat al-Baqara dadka Soomaaliyeed oo yiri war calankeena waa u istaageen anagu caabudu meeyna cibaado Ilaahay baa iska leh dadkaas ma dad shirki ku jira mise dad shirki ku jirin markii le su'aashii baad ku celisay jawaabtii baan markale kugu celinaya waxa qofka bini aadamka xujadu waxay ku oogan tahay marka uu wax ogaado inta qofku uu jaahil ka yahay ama uusan ogeyn xujo kuma ogan laakiin marka aad macnaha aad barato waxaan ama shay lagu sheego research ama baaritaan inta sameysay aad soo ogaato culimada weydiiso lagu yiraahdo waxaan waa noocaas markaas kadib haddaad ku dhaga adeegto amaba aad go'aansato adoo wixii lagu sheegay dana kaleeto iyo caqiidooyin kaleeto iyo caadifad kaleeto oo jirta daraadeed inaadan baarin aadan dhageysan ya xujadii waa kugu ogantaa markaas wax Allah subhanahu wa ta'ala ka soo haray oo kaalmo la weydiisan karaa ma jiraan wax Allah subhanahu wa ta'ala ka soo haray oo wax caawi karaana ma jiraan calan yahow waa nacaawisay waa noo ciidamisay adaa waxaasna siiyey cawaydaha waa shirki qofkaad rabtid oo islaamka yaqaana weydii وهجاج waxaan rabaa inaan arrintan cibaadada iyo ku saabsan wax yar ka durno laakiin waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo waxa tiri nabi Yusuf iyo Yaqoob iyo gaaraan nabi Yusuf markaa waxa tiri diintay haysteen diintan oo kala maahan diintay ayuu haysteen nabi Yusuf kuma dhihin diintan oo kala maahan waxaan ku dhahay diinta Ilaahay kitaabkiisu isku mid weey diimuhu ma kala duwana laakiin Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu noo sheegay aayad meesha lagama bixin ama laguma darin
ilaa ujeeddo ayuu ka leeyahay matalan tusaale markaan ku siiyo qoomkii nebi muuse waxay soomi jireen inta anagu soonna ka badan diintii lama bedelin laakiin waxaa la bedelay dadkii baa loo fududeeyey micnaha taas ku jira marka nebi yuusuf diintan aan haysano diinta ilaahay isma bedelin marnaba saasan ka wadaa okay nebi yuusuf muslim buu ahaa waa igu waafaqsanta absolutely ilaahay inuusan u shariig yeelin in la caabudo uusan ogolaan isagii aabihiina waa igu waafaqsanta absolutely in loo sujuudana waa igu waafaq sida aayadda quraanka ay leedahay adigu waa waafaqsanta aayadda quraanka ya absolutely waxa kitaabka ku yaala xaq waa marka dadkii waxaa sameeyey nebiyada ambiyadaas ilaahay hortooda ma waxay ahaayeen dad ilaahay ka fogoo gaala ah mise muslimiin aragtidaada diineed allah subxaanahu wa tacaala haddaad xusuusato malaa'igta wuxuu ku yidhi u sujuuda nebi aadam yes allah subxaanahu wa tacaala asaa amrakaas yes tana ilaaha amray laakiin sujuudaasu cibaado ma aha wax allah subxaanahu wa tacaala amray xigmadda allah annaga ma gaarno awooddeedana ma lihin waxay halkaas ay tusaysaa dadka diinta yaqaanaana si fiican u yaqaanaana ay garan karaan inaadan xaqiiqatan hoos aadan arrintaa u baarinin ama ay kaa qarsoon tahay shaydaan markii la yidhi ibliis markii la yidhi aadan u sujuud aadan caabud ma ahayn ilaahay maciisa marka nebigan loo sujuudayna sujuudu ma ahayn cibaado waa qadarin weeye hadde waxaad u malaynaysaa aniga laftirkaygu saasaan ku uriya hadda adigaa raba inaad warkaygii macnaha dhinac kaloon maya warkaaga bedelayo malaa'igta allah subxaanahu wa tacaala aan ku celiyo waxaan idhi mar kale si dadku u maqlaan haddii aadan adugu maqlin malaa'igta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku amray inay u sujuudaan nebi aadan malaa'igtoo dhan markii la amray in loo sujuudo nebi aadan allah ayaa amray waa xigmadda ilaahay ma gaari karna annaga waxa allah subxaanahu wa tacaala tanna amarayay ahayd annaga kitaabkeennan jaamaca waxaana lagu amray inaan loo sujuudi karin qof bini aadana inaan laysu raarici karin ama khushuuc ama tawaaduc loo samayn karin qof bini aadana ama shay kaleeto kitaabkan aan haysana maantay ayaa saas noo sheegay annagu markasta waxaan raacaynaa amarka allah subxaanahu wa tacaala waxaad kaloo ku qaldan tahay inaad comparison samayso sujuuddii loo sujuuday nebi yuusuf iyo calanka in loo sujuudo inaad ku samayso aaday u qaldan tahay midna allah amray midna allah reebay right waxaan aqoonteena ka gudubno waxaan jeclaan lahaa dadka soomaaliyeed inay baaraan ujeeddada ilaahay uu ku yidhi aadan u sujuuda waxa ay salka ku haysay iyo sujuudda nabiyullaahi yuusuf meesha keliya ay ku qoran tahay anigu homeworkgayga inaan sameeyaan aaminsanahay meesha keliya ay ku qoran tahay calanka in loo istaago ama loo sujuudo loo istaago ama salaan loo saaro waa kitaab uu qoray asheekh maxamed ibn cabdiwahaab ninka la yiraahdo ee fatxul majiidka la yiraahdo kitaabkaas keliya ayay ku qoran tahay intaan hadda halkan ku hayo tacliiq uu asagu saaray awgiis uuna ku soo yiri waa shirkul asqar waxa la yiraahdo shirkiga yaryar bay ka mid tahay sheekh maxamed cabdiwahaab waa saxsan yahay waa khaldan yahay anu midna kuma oranayo laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego oo keliya maadaama adigu aadan hayn meeshay ku qoran tahay inaan kuu sheego ninkaa odaga ayaa qoray waa ku mahadsan tahay mid kale aan rabaa inaan kugu daro waxa aan ka hadlayno annaga haddaan soomaali nahay ma aha istaagidda calanka keliya maaha istaagidda calanka waa different manners waxaan ka hadlaynaa oo kaleeto in loo qaado hees lagu caddaynayo oo afka laga leeyahay shirki macnaha two different stage waaye sheekha wuxuu qoray raximahullah waa shirkul asqar uu yidhi inba loo istaagaba calanka laakiin inta waxaan ku haynaa in loo heeso oo loo qirto oo loo ooyo adiga hadda waxay leedahay xaadda istaagta ilina iga timaada aayadda quraanka marka lagu akhrinaayana probably xaadda kuma istaagta ilina kaama timaado so imagine adigu hadday ma dhihin aayadaha quraanka xaadda istaagta quraanka macnaha imaada dhihin laakiin waxaad ii qiratay waxaana kuu oranin quraanku marka la akhriyo xaadda istaagta iyo ma istaagto mawduucaas kama aanan hadlaynin sidaas awgeed wax ka baxsan kuma oran karaynin haddii marka quraanka la akhriyo ay ilma igu soo istaagtana kuma sheegi lahayn adiga oo waa cibaado aniga rabbiga naga dhaxaysa macnaha aan ka wado waa runta oo hadda anigu kuma dhahay jadbatigaas kuguma samayn karo kuma dhihi karo ma oydid iyo waa oydaa iyo xaad kuma istaagto because aniga ma ogi taas waa personal thing oo adiga ku wiraan laakiin adigay ma aadan dhihin aan ku
micnaha aan ka wadana oo tusaalahaas ka wadana waxa weeyaan dad badan oo Soomaaliya ayaa arrintaas adiga hadda aad samaysa qaba dad badan oo Soomaaliya ooya dad badan oo Soomaaliya burura dad badan oo Soomaaliya u xafrooda dad badan oo Soomaaliya calanka agtiisa laga mari karin at the same time diintoodii marka la aado ama kitaabkii la aado ama salaadii la aado waxa laga qofkaas inuu taariikh salaad yahay waxa laga qofkaas inuu salaada sidoo macna calanka ugu ooyo ama isu biinbiyo uusan isu biinbiinaynin dadka noocaas ayaan ka wadaa maahane aniga ima aadan sheegin ma og cibaadadaada waxaan ila muuqata qof islaam oo ma sha Allah waana ku xurmeynaa taas Allah ku kalaameeyo laba shayba waxaan jecelahay in bulshada Soomaaliyeed laga soo mari karin ay og inaad igu waafaqsan tahay salaada bahalkii islaamka iyo Soomaalinimada labadaas waxyaalood waa geedka jirridiisii weeye Soomaalinimada iyo islaamka iyo Soomaalinimada way ugu waafaqsan tahay Soomaalinimada noo fasir waxa ka wadi maya islaamku waa ku faaqsanahay Soomaalinimada noo fasir maxaa laga wadaa maalinta ay darsigaas u yimaado ayaan kaaga ku fasiri doonaa su'aalaha ku weydiinayo Soomaalinimo waxay tahay su'aalo kama taagna waa sadar dhan weeye aan ku sii socono arrimihii ku saabsanaa calanka waxaad sheegtay waxaad ka warrantay arrinta heesta calanka qaybo ka mida oo aad sheegtay adinku midkaan soo wadaan inuu si kalan kuugu dhigo waxaad tiri calankan buluuga waa naloo keeno wadamo badan baa isticmaalo Confederate flag weeyaan laga leeyahay dalka Mareykanka gaar ahaan Mississippi oo kale waxaa qaata baa tiri Brigade General baa la siyaabaa tiri markay qaataan xidig halkan waxaan u fiirinayaa qoraal baa yaala marka oo kula socda raalli hada daawadeeshana Brigade General halkaa la siyaabaa tiri marka adigoo ujeedadaadu ahayd waxaan anagu ma lihi dad kale nala wadaaga laakiin waxaanu ognahay inay jiraan wadamo 10 ka badan oo calamadoodu ay isku mid yihiin maxaad ku macnaynaysaa waa maasan tahay waxaad muddo connectionka inuu yaraaday su'aasha dambe igu celiyo waxaa jira wadamo 10 ka badan oo calamadoodu isku og yihiin maxaad intaa waxaa jira wadamo waxaad tiri calankan Soomaaliyeed ee buluuga anagu ma lihin waa naloo keenay xataa Mareykanka isticmaala Brigade Generalska la siiya ciidamada markii darajo ay la dalacsiyo waa maxaa la Confederate flag weeyaa tiri dagaal ugu galay laakiin waxaa jira wadamo fara badan oo calamadoodu ay almost ay yihiin identical isku eg yihiin isku midna yihiin marka in calan anagu aanu leenahay dad kale asagoo kale ay haystaan waxba yaraatee macna ma lahan maadaama wadamo fara badan ay isku calamo yihiin mithaal baan ku siinayaa waa ku fahmay adu soo gal markaas mithaal baan ku siinayaa wadamadaas waxaa ka mid ah isku calanka ah oo calamadoodu ay isku nooca yihiin ama aadka ay isugu dhow yihiin oo aan la kala garanaynin waxaa ka mid ah Netherland wadanka la yiraahdo iyo wadanka la yiraahdo Luxembourg oo kale waxaa ka mid ah Ireland iyo Ivory Coast Africa iyo Europe ay kala yaalaan calamadoodu way isku yihiin waxaa kale oo wadamadaas ka mid ah Australia iyo New Zealand calamadoodu isku yihiin waxa calamadoodu isku yihiin Venezuela iyo wadanka la yiraahdo Mexico way isku yihiin haddaad wadamada islaamka aad timaadid waxaad arkaysaa Masar iyo Yemen oo kale shimbir yar baa u dhaxaysa haddaad shimbirta ka qaadi waa isku mid weeyaan waxaad kaloo in badan ka hadashay arrintan bisha inaad rabtaan inaad keentaan oo tirahdaan calan bisha ku sawirantaan Kenya islaamka loo yaqaanaa islaamka meel ay kaga qoran tahay bisha in islaamka uu leeyahay ma jirto waa wax Cuthmaaniyiintii ay keeneen sidaa awgeed wadanka la yiraahdo Pakistan iyo Algeria labadooda calan waa identical marka midab yar oo u dhaxeeya laga reebo what is the point haddii calankan cid kale ay haysato maxaa laga quseeyaa very good thank you very much and inta aad soo tirisay with a little reservation wa xaqiiq markaan ku leeyahay little reservation waxa weeyaan wadamadaas calaamadooda waa isku egyihiin annaga waxa aan diidanahay ma aha isku ekaanta waxa aan diidanahay annaga maba samaynba cawaale ma samayn calanka Soomaali ma samayn taariikhdiyaa sheegayso so ama ha isku ekaadeen ama yaysan isku ekaanin waxaa ku diidaysa haddii la weylahaa taariikh sheegaysa in calankan meel kale laga keenay ama Talyaanigu uu sameeyay Soomaali u yaalay 1889 haddii la weylahaa kuma aanan mashquulina waxaan dhihi lahayn probably waa isku ekaa kara wafahmino
midda marka ku diidayso doodaas ba ka sokaysaba oo u baahan tahay inaad xalliso intaan la gaarintaas calanka aan maanta haysano isagoo hoosta guduudka qayb hoose saddex qaybood leh qaybta kore oo ahayd crownkii oo ahayd boqortooyadii sheegaysa markaas inay ahayd boqortooyo talyaanigu ahayd qaybta hoose oo 2 xidigood leh oo ka turjumaysay dhiiggii talyaaniga ee ku daata Soomaaliya qaybta hoose oo qaybta dhexe oo calankii buluuga oo xidigta dhexda kule oo shabeelkii leh astaanta lagu darale waxa talyaanigu uu keenay Soomaaliya 1889 therefore dooda aad sheegayso ahaa isu ekaanshaha waxaa ka hor imaanaysaba oo ka horeysaba horta marka hore anagu ma sameyn fine kaba soo qaad haddii dooda adiga lagu raaco ka soo qaad wadaad yar oo talyaaniga oo masiixiya sameeyo doonaya inuu la lumiyo calankan hadda buluuga ah oo xidigta cad dhexda ku leh ma waxa ku taala calaamad cross no what is your problem then my problem is saddex shay calaamada crosska calanka kuma taalo calanka waxa ku taala waxa la yiraahdo pentagramku waa astaan diineed waa midda labaad anagu ma samaysan xagee kaga taala mid aan kala qaadno mid xagee kaga taala calaamada aan sheegay sida oo astaamin diiwaanka xidigta waxaan u naqaan xidigta ocean geeska maadaama aad tiri google ay yaala google gare waxa google gareysa the symbol of pentagram muxuu symbol yahay pentagramku wuxuu symbol yahay afar diinood satanism wicca neopaganism and diinta kale oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa kabala afartaas ba calaamada u tahay pentagramka waxa la isticmaalay intaas oo sano waxa isticmaalay musaxariinta waxa kale oo calaamada xidigtaahi ay ku jirtaa aan dhihine oo iska leh oo ay loo keeno meesha noo galiyay wadanka talyaaniga the coat of arms of Italia ama astaanta qaranka ee Soomaaliya talyaaniga aan dhaho waxa ku jirta xidigta cad ee shangeeska ee Soomaaliya calankeeda uu galiyay ee loo yaqaano talyaaniga marka la joogo Estrella d'Italia ama xidigtii talyaaniga almost waxay la mid tahay xidigtaasi aan sure inaad hadda arkaysid waxay la mid tahay wadanka New Zealand iyo wadanka Australia waxa ku jira Union Jack calan dho waxa lagu jira oo symbol u yahay inay yihiin wadamo hoos yimaada boqortooyada talyaaniga ma aan dhaho boqortooyada Ingiriiska Commonwealth si toos Union Jack waxa mahadle kanu hadda inuu yahay Union Jack jaabada igu jira waxa mareeyaa gaalina that is Union Jack wuxuu ku jira Union Jack hal markaadi Union Jack no intaan hay'ad xagalin warka waa ku ogala waqtigaaga Union Jack wuxuu ku dhex jiraa calanka Australia calanka New Zealand waa indicative wuxuu cadeynayaa inay hoos tagaan boqorada Ingiriiska in hoos tagaan annaga marka calankeena xidigta dul saaran ee xidigta cadahi waxay si toos ah uga timid ama soo galiyay talyaaniga waxay hore ugu jirtay calankii hore oo talyaanigu uu 1889 keenay waa la bedelay 1936 qaybtii kore ee crownka ahayd waxa lagu bedelay calaamadii fascist markii talyaanigu noqdo fascist isla ayadii baa noo taalo wali astaanta qaranka maanta aan leenahay ee Soomaaliya mushkiladu waxay tahay wax badan baad oranaysaa u baahan in la dul istaago marka waxay ku fiican tahay inaan goosgoosano waxaan isku waafaqsanahay calanka buluuga oo xidigta dhexda kula inuusan lahayn symbol ama calaamad gaalnimo Christian talyaanigu waa Christian asaga keenay baa tiri dadkan hadda aad sheegayso ay ka mid yihiin secret society-ga waxa la yiraahdo iyo dadka la midka markaad eegtid symboliskooda haba yaraatee xidigtu qayb kama ahan qaar Star of David wata ku jira xidigta Nabiyullaahi Daawud lagu yaqaan calanka Yuhuudda ku dhigan si ay u sheegaan hadalka ayaa ka muuqata laakiin waxa halkan sidoo kale ka muuqata oo aad ka hadashay oo aad lahayd calanka Soomaaliya marka la sameynayay inay Soomaalidu aysan sameeynin loo keenay haddii talyaanigu uu calan keenay waa doodda saad ugu hadalka u dhigtay talyaanigu inuu yahay dowlad Christian oo Roman Catholic ah qaarkood Protestant bay leeyihiin diimo kala duwan baa lagu soo baray taqaana ay leeyihiin maxay noogu keeni waayeen mid calankoodii iyo diintoodii oo xidigta noola doorteen waxaa dhinaca kale argumentaas yaalla oon soo gudbin doonaa insha allahu tacaala waraysi lala yeeshay muwaadinka Soomaaliyeed oo Soomaalida isku waafaqsan tahay intooda badan inuu calanka sameeyey
marka qofka la sheegaa labadooda waa isku mid oo laba nin oo Soomaaliyeed maxamed cawaale liibaan waraysi laga qaaday afkiisa ku leeyahay anaa gacanteeda ku sameeyay cidna igama dambaynin maxaan adiga ku dhageysanaynaa oo asagaana u dhageysanayay dadkii lamid ahaa SYL iyo dadkii usoo dagaalamay xornimada. Thank you very much, Fatah. And waxaad weydiisay su'aal waxaad tiri Talyaanigu waa Catholic iyo Protestant. maxay u gali waayeen calaamadii Catholic-ga ama calaamadii Protestant maxay u gali waayeen waxaad tiri ama aan isku waafaqnay calanka xidigta ma aha waxa calaamadii Kirishtaan ku jirta waa astaanta qaranka ee maantay qof Soomaaliya oo sheegta oo sameeyay uusan jirin una qoran Talyaaniga lana yaqaano qofkii sameeyay maantay taariikhdiisa aan hayno waxa ku jirta calaamadii Kirishtaanka ee la yaqaano loo yiraahdo Greek Christian Cross waxay ugu jirtaa meesha kore su'aashaadii marka ahayd maxay loogu gali waayeen sidaas aan uga jawaab waxa kale ka tageen oo ahayd in aan yeelano halku dhig wadanku inuu leeyahay qaybta hoose ee bannerka ee caalamka ugu qoran halku dhig wadan kasta ugu qoran yahay anaga waa noo maranta wax noogu qoran taasaasan uga tagay astaanta qaranka ee Soomaaliya waxa sameeyay Talyaani astaanta qaranka ee Soomaaliya waxa ku jira calanka buluuga haddii marka calankii buluuga ahaa ee astaantii qaranka iyo wixii dhama ku dhameystiran yihiin Talyaaniga ay u qoran tahay adna aadan ugu diiri karin oo dan dhihi karin maanta qof Soomaaliya sameeyo dan dhihi karin oo dan sheegi karin kuma waafaqsani yaa sameeyay marka yaa taariikhdaada marka yaa sameeyay waxa halkan jooga oo hadlaya nin la yiraahdo maxamed cawaale liibaan oo maxamed calanku sheegtay astaanta qaranka ma sheegan wali okay anagu waxaan ka hadlaynaa oo hadda anagu aan haysanaa eeg astaanta qaranka waxa ku jira labada shabeel oo aad ka hadashay in badan Talyaanigu shabeel ma laha aniga waad iga jaahil bixi macnaha wax waay ma rabo inaad su'aalaha intaad i weydiiso hadana dhinac kale uga baxdid markaan xaqiiqda keeno astaanta qaranka ee Soomaaliya waxaad leedahay calankan waxa keenay oo noo sameeyay dawladda Talyaaniga waxaad leedahay maya astaan Kirishtaan kuma taalo oo waa astaanta Kirishtaanku ma dhihin astaan Kirishtaan kuma taalo waxaan ku astaanta Kirishtaanku waxay ku jirtaa astaanta qaranka right so aan kala qaadnaa because inay isfahanaan rabnaa calanka buluuga oo markii aan saarnay oo heesta loo qaadayay aanu halkan ka saarnay caawa calankaas waxaad aaminsan tahay inaysan ku jirinin astaan ka turjumaysa diin aan diinta islaamka ahayn no ma aaminsani waxaan aaminsanahay inay ku jirto astaan ka turjumaysa afar diinood waxaad sheegaysaa xidigta yes so xidigtu afar diimood bay ka turjumaysaa calaamad caalamka dhan lagu yaqaano afar diimood Satanism Wiccas Neopagans Kabbalah you can google it right now hadda google garee waxa halkan ka muuqata intaas oo maxaa lahaa symbols ama maxaa lahaa logooyin ah oo aan maxaa lahaa dad kala duwan ay sheeganayaan haddii ayagu ay sheegteen oo ayagu ay saas u haystaan waa ayaga iyo qushigooda annaga Soomaali maxamed baana la yiraahdaa shanta waxay ahaan lahayd ayadii qushigooda waxay ahaan lahayd raallihow Sufyaan raallihow hadda isku daytiina hal xabba iga ilaali statement ha samayni su'aali weydii markaas waxa tirada ka jawaab statement samaysid statement ka jawaab qasban waxaan halkan ku haystaa resource aadan adigu haysanin ama aad horay u aragtay ay kan google research waa sameeyay laakiin Cabdifatax laba haysan ku haysan adigii ku ii soo diray calankooda taageeray shirkadda waa adigii ku guul daraystay uu kaan camay resource ka hayso waa ka guulaystay haddii aad leedahay dhagayso hal xaba kuma heshii karno wariyaan ahay haddana opinionkaygaan sheegaya kuma heshii karno isma raacdo iyada ama wariye noqo ama aan ka doonno arrinta labada dhinac nool bax معناها واحد كل حشمينا هنا كان kugu iri laakiin marka aanu kula hadlayo dadweynaha aan kala helno dadkan diimaha kala duwan sheeganayo aad leedahay xidigtu diimo kala duwan bay u taagan tahay ayagu siday u arkaan weeye annagu mas'uul kama nihin maxamed ruuxi kaadi ayagu waxay u arkaan weeye waxay iyagu arkaan weeye
annagu waxaanu u aragnaa xidigtaanu inay shanta Soomaaliyeed ka turjumaysa saarsan u haysana ayagu naguma haystaan annaguna tooda kuma haysano ciisa bidiin muusa bidiin baa la yiri ummadda Soomaaliyeed inaad u qabato tiraahday dad baa waxaan wax u eg haysta oo waa khaldan yihiin waa ku khaldan tahay waxa ugu khaldan tahay ayagu waxay u haystaan ayaga ka masuula quraanku wuxuu leeyahay wala tadiru waziratun wizra ukhra وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى مسؤول وأنا لكن absolutely واحد سمينيسيد فيرما مركلان كوجو علينا opinion your reporter اسمه راعان either ويدي أنا جست كوا أنا ويدي ما فيري أنا جست كوا عادي ويدي waxaad adigu ii sheegtay baan soo qaaday waa Google gareeyay waxa halkan ka muuqata 2000 different logos ayagu waxay aaminsan waa gooni look ina iskari waa qaldan tahay waxa leedahay that is lack of intelligence waxaan inaadan waxahaynin look waxaan u jeedaa inaad meel ila ma haysato calaamad ay caabudo waxay u haystaan shanta Soomaaliyeed inaan hadlo mise maanta aan hadlo waa ku sugaa waa ku dul qaadanaa iska hadal oo maraha hadlay oo ma soo boolisa haba meel ba xararaysaa maya hata opinion samaynin no opinion ma samaynin waxaan ku iri khaladka aad galaysid waxay tahay fiiri ani waxay leedahay opinion ha samaynin adigu let me make this point and I'll give you وخلدنتها صورتان كويرو I'll in context don't take my words out of context هذا الجملة هانو قاضو هدان كويرو هذا وحي لمتها وحادي ويدينيسيد نينكي لويري أو كلا وحا لويري يانا نجلين metaphors and opinion هذا ليسا point جيغان وعاديها أقول ما يوكاين حيا أديغانا مانتي you don't have a point, a single point or different charisma. هذا وحلا لا لكم كان أكاليسي. هذا ما سميسن. واللو كهني. How are you gonna say المركب وحويان أن أيقو تودا قاتلنا وتنا قاتل. هذا ما سميسن به. هذا وح سمين هذا. لكن هذا ما سميسن. تلياني أو كهني. أولا لو كهني. أولا لو كهني. أولا قريب. ساسا كهني. هذا سمين أو قف سومالي وسميلها. ها وقاضلين. وكجودنا دودا. لكن هذا ما سميسن. good ina khaldan tahay marka la aan ku tuso haduu qof Soomaaliya sameeyo ku dacmi no waa khaldan tahay ma wax saxaafada ka baxsan lagu dhaw waxaan waa ku khaldan tahay ma that is disrespect no dadka khaladaadka Soomaalida ka gala dadka khaladaadka ugu badan Soomaalida ka gala waa mutacallimiin oo fikra khaldan inta badan ku keena أنا مركان ماشان سوف ديسنا أو ورثيان كأقبلي ووجا ضد علنك يوحد كقبت ووجا إن بايس تهاي أو أد أمسنتا ووجا إن الدفاع عن السنة ووجا yet وكأقبلنا كوي ماذا so respect to me opinion كي إن أدقيستي لكن إن معناها أنا أقول لايف كجرنا ترى هذا واقع دنتهاي معني هذا واحد كتوس يسا إن هذا آيات حين أي واحد يستاهل إن نين قضية حاجة تاسنا عيبوا أنا ولي واقع دنتها ما كودي أوكي واقع دقيستي أنا كلا بحنو horta arinta ku saabsan nin aqoon-yahana ahay waa khaldan tahay lama oran karo Umar bin Khattab baa minbarka laga ridiyay adigu Umar kama fiicnid kow dadka Soomaalida dhibaatada ku hayana waxa kamid ah dad wadamo qalaad inta taga fikrado khaldan soo guuriyo oo yiraahdo aqoon-yahan baan ahay oo buugaag wata marka in lagu yiraahdo waa khaldan tahay inay humble ka dhigtay ahayd Imam Shaafici wuxuu yiri waxaan jecelahay markaan qof doodno in aniga la iga guuleysto oo anigu aan guuleysan معناها waxa uu diin laga hadlayo waxaan ka hadlaynaa diin ma waxaan ka hadlaynaa wax weeyaan ay Christianka ka hadlayo diimaha qalaad la soo boray 200 iyo soo macnaha waxaan ka hadlaynaa kitaabka jaamacad quraan xadiid waxaan ka hadlaynaa wax weeyaan facts of history rabta inaadan ogolaanin oo u difaacayso caadifad kale ku hayso aanu wada hadalno sida laba nin oo Soomaaliya dhageyso sida laba nin oo Soomaaliya wada hadalno calanka iyo astaanta hadda difaaci karto ku ogola difaac لكن هيدين حدك من كلا أوسمي أنا وسهر ما نقادن أساكو كان wake up حفيد أوكي هدين من سومالي هذا أوسميو أن حدك كلا أو ماشي ترى شن جيس هيكلا هذا اللي جيس اللي نك سمي سومالي ويا مقادن اسم
haddii aan xaqiijino dhegayso haddii aan xaqiijino waxaan qof Soomaaliya inuu sameeyo oo aanan u haynin annaga reer talo ku nool haddii aan ogaa lahayn inuu qof Soomaali uu sameeyo oo runta ay tahay Cawaale inuu sameeyo ma aanan gelinin dooda aan gelinin waxaan ka bixi lahayn dooda dhinac kale waxaan dhihi lahayn waraan iska saxno laakiin hadda waxa meesha yaalahay Cawaale ma sameyn Cawaale in lagu haystay waraysigiisa uu bixiyo 1983 Cawaale marka uu leeyahay anaa gacanteeda ku sameeyay tulida ku xigta wuxuu ku darayaa dad ayaa igu haysta ama dadka igu haysta waa beentood waqtigaas lagu haysta Cawaale waqtigaas looga calanka Cawaale inuu sameeyo isaga qiraya maya I think waraysigaas waa duuban yahay mar rabina waqti ku bixino ukaada ku dhageystay I think waraysigaas laba jeer baan dhageystay calanka laygu haystay Cawaale kama wadanin ajnabi igu haystay ee Soomaalida dhexdeedu ka hadlayay iyo dadkii consulka uu hor istaagay ayuu ka hadlayay oo lahaa dad baa lahaa anagu sameynayna mid kale laakiin calan baan cirka ka dhiibay Cawaale wuxuu yiri waxa la yiri dad baa u sameeyay asagu ma sameeyna waa loo soo dhiibay sidaas laygu eedeeyay okay waxaan kaloo rabay inaan ku weydiiyo oo arrintan cibaadada iyo calanka ku saabsan وري عبد القادر عمر عبد الله مركا ورئيسك سينيسي واحد سوق على تأريجا هوري واحد نكون معنا يسي وانا دوميها طبعا بين كام شيء انا كاشي انا حاجه كذا واحد كون معنا يسي glory to be hooray yeah hooray where did you get that from? Do you have Webster dictionary? I have Oxford dictionary here. Write Webster dictionary. Webster dictionary and write hooray H-U-R-R-Y. I'm a H-U-R-Y and then see what it says. Hooray waxa uu ku leeyahay Oxford dictionary wuxuu ku leeyahay hooray waa joy of approval. Yes. Joy of approval. Joy of approval weeye buu ku leeyahay marka hadaad ka fiiriso wuxuu ku sheegayaa eraygan in la isticmaalay markii uu horeysay 440 sano ka hor 1517kii meelaas in la isticmaalay biblically dhowr jeer baa la isticmaalay oo book of Isaiah ayuu ku qoran yahay dabcan Christian Bible ka soo taqaana erayga glory to be waxa uu ku macnaynayaa inuu yahay waxa uu qofku ku farxay oo markaasna aqbalay so hadii Soomaalida calankii aqbashay ayna ku faraxday xagee cibaadadu ka soo galaysa waxaan horta ku faraxsanahay markuu horeysa aniga hadda hortaydu yaala Webster dictionary wuxuu leeyahay glory to be hoos u socda u socotid midda adigu ku faraxdana aad sheegtana waa sax oo ah joy expression of joy macnaheedu wax weeyaan markaas in la tuso ama la sheego ama la cadeeyo in loo hayo wax la yiraahdo respect as a joy loo khushuuco la tuso in la isu tawaadu loo sameeyo macnaha erayga saas wuxuuna la mid yahay erayga ah ralo respect iyo khushuuc laba wuxuu aad u kala fog weeye respect waa ixtiraam respect waa ixtiraam khushuucna waa wax cibaado lu ku leh aye maxaa ujeedaa hadda so erayga glory to be waxaan ognahay inuu quraanka ku soo arooray I don't know inaad la socotiin kala ma la socota oo la yiri ma la socota horta maxaa la yiri horta isha adiga ma la socota ay dhina isha waxaas u yiri waxaan mooday su'aalaha ku weydiinayo wariyahay no waxaan rabaa ma taqaanaa markaad statement aad samaysid make it follow up ma ogtahay inuu saas yahay may adaa follow up sameynaya inta hore su'aalo ku weydiinaya ma la socota glory to be in quraanka ku soo aroortay markii horeysay xagee uga soo aroortay so waxaan u arkayaa inaad ama ka baqanaysid waxa soo socda ama maaragtay aadan aqoonin siday doontoba ha ahaatee suuradda la yidhahdo qad aflax ayuu ilaahay kaga hadlay markuu insaanka abuuray uu ka hadlayey uu leeyahay ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين عبد الله يوسف علي translation in the English language فتبارك الله أحسن الخالقين glory to Allah the best create. That is translation of English. Glory to be Quraanka kuma soo aroori. Waxaan ku sugayay inaan ogaado meesha u socotid. This is a translation. Quraanka translationku ma gaaro. Erey ayad Quraan meesha ku aragtid hadii translation loo sameeyo wali waxba ka dhiman. I hope inaad barataa maan.
no very good waa ku waafaqsanahay oo quraanku waa ka sareeya waxaas oo waxaan ognahay inuu ilaahay leeyahay wala ta'lamuna naba'ahu ba'da hin maalin walba cusub baa laga ogaanayaa taas kama taagna aayadan fatabarakallahu ahsanul khaliqin af ingiriis ku tafsir maadaama aad intaanaan halkaas aadin su'aasha meesha wax waaye anagu waxaad igu marti qaaday inaan ka doodno calanka iyo astaanta qaranka haddana waxaan aadnay macnaha inaad weydiiso aayada quraan iyo waxay yihiin iyo translationkooda inaad weydiisid ma waxaad isku dayaysaa waqtiga inaad lumisid mase waxaad u socotaa meel haddaad meesha u socotid tag haddaad waqtiga inaad lumisid u sheegtidna dee waa wax kale iyadu let us talk about the flag and the coat of arms right adiga ayaa waxaa tiri فتبارك glory to Allah glory to be ayaad ku macnaysay arinta arintan iyo cibaadada ikan ami waxa soo ku dhageystay anigu cibaadada ma keeninin adiga keenay oo yiri calanka loo qoshuucayo cibaado weeye marka eray adigu aan isticmaashay oo af Ingiriis ah ayaan soo qaatay now waxaan ku siiyay aayado quraana oo eraygaas macnaynaya waxa tiri quraanku wuu ka sareeyaa waana ku waafaqsanahay فضلا فتبارك الله أحسن الخالقين عربي تقانا ديمها لو صوبري متعلم باتاي بروفيسور باتاي فتبارك الله أحسن الخالقين إنجليزكم عليه no I am not going to do that ما كون معناه English absolutely very good because ما أنا subject كان كلامي وأكيد قد بينا داوداش أو دينا subject داوداش أو دينا مركز شرحية هو وأري إنجليشة لغة هذا ودن إنجليشة أقرن إنجليشة an American language كتابك كما سو قرناني أري هو مركان شرحي وهو أري ودن إسكالية أما اللغة ده إنجليزكا أما أي استعمال عندك كريستيان كوا استعمالا لغة هذا ودن إنجليزكا اللغة دي سؤال تهاي معنيه سأي كوضان نفهمي عن أشرحي erayga micnihiisana dictionary-ga aan ka fiiriyay oo exactly hadda aan wada jirno labadaba saan u sharxaynu yahay meesha marka macnaha waxaad rabtaa inaad sheekadii ka galgalatid arda because calankii ma difaaci kartid marka waxaad ila aad kitaabkii erayga glory to be adiga ayaa soo daliishaday adigoo ka hadlaya calanka Soomaaliya saasaan kugu keenay no waxaan ka hadlayay halka Banapul brothers are Catholics. Yes. And the comparison. Comparison. Marka sharxay. Haddaan saxsanahay qabo. Waxaad ka hadlaysay Banapul brothers. Waxaad ka hadlaysay niman la yiraahdo calanka hees loo qaaday ayaad ka hadlaysay oo tan Soomaaliya loo barbar dhigay. Calankee hees loo qaaday? calanka buluuga nimanka Mareykanku ay haystaan ayaad ka hadlaysay ya okay ka soo don't worry aye calankaas aan sharxay heestiisa Bonnie okay listen Bonnie blue flag yes heestiisa qaaday waxaan comparison kula sameeyay heesta calanka Soomaaliya isku meel baan u soconaa heestaas adoo sharxaya ayaa waxa soo galay ereyga hooray ayaad macnaysay waxaan marka fasiray hooray waxa uu ku yahay in English language iyo sida ay isu leeyihiin ereyga ah cawoy iyo hooray that is a comparison aan sameeyay aniga so waxba kuguma eedayn waxa tiri uma soo guuriyay anigu so now was jeesa waxaan ma ana dhihin dhinaca inta u jeesa koonfur dirta waxaan ma ana dhihin aniga hadda waxaad tiri kitaabka ka soo xigta ay quraana sheegtay calanka Soomaaliya ka tiri waxaas ma dhihin waxaan sharxay his English oo u taala loo qoray loo qaado calanka la yiraahdo Bonnie blue flag oo la mid ah calanka Soomaaliya oo asalkiisa meeluhu ka yimida oo dad ay leeyihiin heestii Englishka ee akhriyay waa sharxay ereyga ugu dambeeya hooray wuxuu yahan sheegay waxaan kaloon la barbar dhigay ereyga Soomaaliga ee la aan ku yaala meesha oo la yiraahdo cawoydaha that is a comparison I made isku barbar dhigan sameeyay kaasoo ah ma ahayn ayad quraan maya ayad quraan kuma dhinano maya waxaan kuula aaday waxaan rabay oo kaliya dadku inay ogaadaan dadkeenu af Ingiriis ma yaqaanaan adigu Ingiriis ma ku sharxin ba waxaan ku sharxaa Soomaali markii hore ya Allah yakhliik cabara hadlayso waxay u kaadi af Ingiriis Soomaali baad ku sharaxday Ingiriisna waa ku sheegtay waxaas oo dhan waa sax weeye laakiin sidaad u waday cawo iyo waxaan isbarbar dhigtay
ereyga hooray ayaad isbarbartay anigu waxaan rabay marka inaan kuu caddeeyo ereyga hooray sidaad adigu u isticmaashay waxay ahayd arrin la jaan qaadaysa barnaamijka adigu aad wadatid necessarily aysan ahayn according to the Oxford English Dictionary inaysan sidaa aad u dhegeysid keliya aysan ahayn sug adigu marka ma Webster Dictionary glory be to aniga ma sameeyo Webster showday anagu Ingiriis baa nahay wax allaala waxa Ingiriis ku hadla halka marka wax waaye geediyaan joognaa inta Oxford la aadin Oxford ereyga ma ahayn ina xagga kale aaday raalina ho xaggaaga ina aaday meesha aniga igu eedeysay koonfur ba aadaadina xagga ila aadaanabtay soo waa isfahanani adigu raggeedii waa soo gabagabeynayna saacad iyo 20 ma hadlayna xaqiiqatan waxa islaanu saac ka dhig laakiin waxaad u egtaa in radio Muqdisho ka soo shaqeeyay oo aad iyo aad u hadal badan waa sida lagu weedeeyo radio Muqdisho waa ka soo shaqeeyay been ma okay waa gartay waxa jira intaan u gudbin just radio Muqdisho banaankiis kaliya rabaa maskaxdayda kuma jira hadda igu soo dhacday magacaaga saxda inaad bedeshay markaad Mareykanka tagtay magac kale lagu yaqaan maxaa ka jira soo arinta calanka aan dhamayno marka hore kadib taas aan u gudbino diyaarana waa kaaga jawaabaa su'aashaas ما مرة من وقت وبحنا جينا سرع السيارة رباه محل ورنجر باكية أوضي وحتى نين خيار الصومالية thank you تاكية من نيناسا مسوى مقع ما هي كولكت هذا أي شيء well معناها تاكية مركز نيناسوي مقع مركز يا والورنجر يتنوع نيناسوي تاكية ونيناستيدا إلا هذا اللي هذا ولا إيه قناة وحقرصون معها دتكي أنت هذا ماشي أنا ريبان جوجنا اللي يقول يا تاكي وحقرصون معها وأقرتي لكن نيناس ترى وضيعش مركب دقوبان وأنا أديك وكل ماشي أنا يتجان ناسيه هو حوجا وكير اللي هذا أم شو هنا يقول عايزتات أقول لك فتما وحرب صاحب وياه دب وحوي رجي دادي والمكري وهي لكن waxaan ku faraxsanahay oday Soomaaliyeed tahay aad raali ka tahay waa ka gudbaynaa waxaan rabnaa soo gabagabayno arintan oo aan ku soo gabagabayno arin adigu aad xalay ka hadashay astaanta qaranka maadan taaban wali calankii bisa xoogaa ka hadashay astaanta qaranka wali maadan taaban ana igu yiri calankan ka hadlayna astaanta qaranka imaada dareene marka dib baad ka keenay ka soco haye mar hadaa diiday ma ku qasbayo ما ديديننا موضوع أنا بتاعي مركب واحد ربيع علن كي إن ويهي مركتي أن هذا وقت حديقته إنك كتير مديمة كله أنا واحد راح يسنا وأكوش شيء جدوينا استعمال علن كان أنا سمين علن كان عوالم لكن جدوينا الصوماليات أن وحنوسو دين دونا هل كان قبل دونا محمد عوالم الليبان وحل dadka oo Soomaaliya qof Soomaali ka qarsoon yahay ma jiro waraysigii uu duubay 1983 very famous qof walba Soomaaliya yaqaana waana duuban yahay aniga dhowr maran daawaday waana la wada ogyahay waa ka gudbaynaa waxaad idinku hadda keenteen calan oranaya dhexda ay kaga qoran tahay Allah magac weyn oo culays badan weeye ma sha Allah xidigtu ay saaran tahay bisha aan ka wada xidigtu aan ka wada waxaan ognahay waxa la tiri xidigtu waa muslimiinta islaamka lagu yaqaano laakiin xaqiiqatan diiniyan marka la fiirsho waxaan jeclaan lahaa meesha inta kaga taalo inaad noo sheegtid maadaama aad diin ka hadlaysid islaam waa su'aal weeye marka si aanan waqtiga u qaadan anigu in badan jawaab bishan aad keenteen half moonka lagu yiraahdo afka qalaad xagee diinta kaga taala naga soo gashay فتاح حافظ عنده سوري ما انت انفتاح كبير حافظ افتح كذا حافظ حافظ هذا وما سنتهي marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan laba arrimood ba aan isdaba dhigo ugu horeyn waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago calanka annaga aan keenay hadaan nahay tawakkal innigiisu misanahay Soomaaliya inay ku jiraan dad fara badan oo annaga naga aqli badan naga cilmi badan naga waay aragsan maalinta ay timaado in calanka la bedelana ayaha calanka inuu noqdo mid laga wada tashto ee uusan noqonaynin
in tala ku nool kaliya loo daayo annaga ujeeddadeennu waxay tahay calanka in la bedelo taas markaa micnaheedu waxa weeyaan calankan aan wadno ma aha midka aan rabno Soomaali inaan ku dalqamino ama aan gelino haddii nalala qaato is fine haddii mid kale Soomaali ay keensatana that is exactly waxa aan u olole kaliya keenna in la qaadano ololuhu maaha laakiin waxaan dad waaweyn hadda la timaadid problem hadda aragtid solutionka inaa raacsid way taas waa mid astaanta xidigta aan iri waxay u taagan tahay waa astaan islaam diinta islaamka waxaan kugu raacsanahay meelay ka qoranta inaysan jirin bilan la isticmaalo kuma qorno diin waxa kaloo runtaa ah in asaaskii ama markii ugu horeysay ay bilaabeen Cuthmaaniyiinta inay bilaabeen ayadana waa xaqiiq waa runta waa kugu raacsanahay hase yeeshee marka dad mutacallimiina waxaan rabnaa bulshada in la hogaamiyo waxaan rabnaa bulshada in lagu hogaamiyo nidaam aan keenaynin friction ama isku dhac ama burburin qarankii ama in nidaamka dhammaan laga hor yimaado waxaan samaynay symbols waxa u furan dood sidaad hadda adigu la timid oo kaleeto dad badan oo Soomaaliya nala soo xiriiro yir war xidigtu haddaad islaamka dhigaysaan dayaxu intuu islaamka galaa oo run ma galo ma aha dayaxu islaam diinta islaamka meel ay uga taala male laakiin ujeeddadu waxay tahay calankan iyo astaantan annaga haddaan Soomaalina ma aanan samaysan hal la bedelo wixii lagu bedeli lahaa annaga kana nimid Soomaalina waa u taala waa ka kaasaan kusii soconaynaa kaas aad keenteen baan kusii soconaynaa bisha iyo magaca Allah waxa kale oo weheliya 7 xidigood oo isgarab yaala meeshii kan kala ya 5 aan ku saxay 5 way 5 xidigood ma amso 7 5 waa gartay maxay shanta u taagin shanta Soomaaliya waxaan rabnay waxaan ka fakarnay annaga waxaan rabnaa ama tala ku nool qorshaheeda ku jira ama aan jecelnahay in aan one day aragno greater Somalia wadanka Soomaaliya oo dhan oo midoobay waxaa noo taala qaacido waxaa noo taala nidaam aan rabno halkaas inaan ku gaarno haddii Allah subxaanahu wa ta'ala uu yiraahdo muqaddas waxaa noo amarka in aanan ka teginin astaan muujinaysa maadaama Soomaalida markii hore Talyaanigu ka dhaadhiciyay xidigtan shanta geesli waxay u taagantaa shanta Soomaaliya xidigtiina ay tahay xidig asagu uu leeyahay calaamadiisa wadankiisa ugu taalo asaga calaamadiisa haddaan meesha ka bixino Soomaalidina ay aaminsan tahay shantii Soomaaliya inuu taagan tahay waxaan ku qasbanahay aan rabnana inaan ilaalino Soomaalinimadii aan rabno ilaalino isku dhaganaashihii iyo xiriirkii taariikheed iyo diimeeda Soomaalida ka dhaxeeyay sheegashadeediina aanan ka teginin waayo annaga waxaan aaminsanahay shanta Soomaaliya inay mid tahay ma kala duwanin ma aaminsan wax la dhaho federalism ma aaminsan calamo kala duwan waxaan aaminsanahay Soomaaliya meel kasto ay joogto inay isku midab tahay isku diin tahay isku luqad tahay isku dad tahay hal inay tahay sidaa daraadeed shan xidigood waxaan meesha ugu qornay inaysan lumin taariikhda shanta Soomaaliya oo wadamo badani ay rabaan inay tirtiraan waa gartay arrinta ku saabsan shanta Soomaaliya waxaad aaminsan tahay inay mid yihiin shanta Soomaaliya markaan ku leeyahay mid ay yihiin macnaheedu waxa weeyaan caalamka waxa la yiraahdo waxa dadka lagu kala soocaa ethnicity oo ah dhalasho iyo macnaha meesha ka soo jeedaan waxa lagu kala soocaa luqad waxa lagu kala soocaa diin waxa lagu kala soocaa midab iyo isku ekaansho la'aan annaga intaas oo dhan iskaga mid aan nahay macnaha aan ka wadaa Soomaalidu waa mid taas way macnaheedu marka siyaasad ahaan ka doodi siyaasad ahaan annaga taas waa ku sheegay businesska siyaasadda tala ku nool waxa weeyaan hadda waqtigan xaadirka waxay ku jirtaa change of macnaha structure ka wadanku ku fadhiyo siyaasadda noocaas hadda kuma jirna anagu mana galno waa gartay su'aal kale oo aan ku daro meel yar Soomaali Kenya meesha ay joogaan waa ku sharfan yihiin Soomaali Ethiopia meesha ay joogaan waa ku sharfan yihiin waxna waa muujin Soomaalinimadii iyo mustaqbal in laga hadlo waxna waa waxa hadda waaqiciga jira waxa waaqiciga jira tii Soomaaliya iyo Somaliland aba hadda wax weeyaan xaaladooda xun tahay dreamkaas riyadaasi aniga ilmahayga iyo kuwii si dhalanay dabcan u taala anagu hadda saasan taagana xogaa yar meesha mugdi yar baa ku jirana iftiimaan doona iga raalo ma marka waxaad aaminsan tahay Somaliland iyo Soomaaliya inay mid yihiin oo isku soo noqdaan oo sidii hore la noqdo mise waxa aaminsan tahay sida hadda la kala ahaado no annaga waxaan nahay dad u ololeeya diinta islaamka waxaan aaminsanahay islaamnimadana qaacidada islaamku waxay sheegaysaa itixaadka ama isu tagu inuu yahay awood kala taguna inuu yahay daciifnimo iyo tafarruq caalamka maanta aan ku jirno dawladihii kala dhaqanka duwanaa kala diinta duwanaa kana luqadda duwanaa ayaa isku imaanaya si ay u samaystaan ama u helaan awood
waxaan aaminsannahay ama aan jecelnahay in Soomaaliya ay dhammaan midowda kulligeen Somaliland iyo Soomaaliya inay midoobaan ayaan jecelnahay saasaan aaminsannahay laakiin siyaasad ahaan qaabkay ku midoobi lahaayeen hadda ma rabno annagu businesska haysanaan galno mana noo degsana balse waxaan jecelnahay waxaan aaminsannahay waxaan Allah ka baryaynaa inay midoobaan oo aysan kala tagin si awoodda Soomaaliya ay kor ugu sii socoto waa gartay waxaan ku weydiinayaa su'aashaas waxay tahay mar waxaan leedahay anagu siyaasad shuqul kuma lihin haddana waxa weeye shaarkii siyaasadda qabtaa waa dhex boodaysaa markaas waxaan ku weydiinaya marka that's why I want to put you on the spot anyway we moving on no problem xidigahan maxaa tiri marka u taagan yihiin shanta Soomaaliya u taagan yihiin baa tiri macnaha markale markaan ku celiyo symbolka aan u soo qaadanay saan hore kuugu sheegay ma aha wax oo macnaha intii hadda aan samayna calankan waxaan bedelay waxay u taagan yihiin shanta Soomaaliya yes marka yaa sameeyay calankan hadda idinku aragtaan Soomaaliya calan noqdo hadii la yiraahdo yaa sameeyay waxa sameeyay kooxda tala ku nool oo adigu gudoomiyaha u tahay yes wax fikrada ma kula hay'ad adigu shakhsi ahaan ila adaa nagala joogo inta kale waa dhunteen meesha ku jira lama yaqaan adigu fikrada ma kula hayd waxa lagu darayo naqshada qof walba oo ku jira central committee ama guddiga dhexe ama guddiga fulinta ee tala ku nool fikirkiisa waa la dhageystay waana la qadariyay Sufyaan fikir ma ku lahaa naqshada calanka daas oo aan ku weydiiyay dad kale kuma weydiin lama yaqaaneen qof kasta oo ku jira guddiga dhexe ee tala ku nool fikirkiisa waa la dhageystay waana la qadariyay waxa lagu soo saaray si wada jir ah qof gooni u leh ma jiro qof fikirkiisa gooni loo qadariyo ma jiro waa group decision waa gartay it sounds a bit like secret society and in a team group qarsoon oo secret oo I don't get it anyway waxaan rabay inaan ku su'aasho waxaan ku weydiinaya waxay ahayd xidigtii baa ku jirta oo shan xidigood baa ku jira yes waxaan mooday xidigtu inay tahay diin shaydaan oo qalaad oo naloo keenay xidigtii oo sideedii ah oo shantii geesood leh laakiin shan xabba laga dhigaa ka dhigtay marka ma shan shaydaan oo hor laad noo keentay adigu waxaan u malaynayaa calanka aad haysato inuu yahay midkii ugu horreeyey ee aan display ku samayno hadda midka cusubi wuxuu yahay xidigaha waxaan u soo qaadanay hexagram xidig walba ahba waxay leedahay 10 gees waddan kaloo caalamka isticmaala ma jirto group isticmaalana ma jiro so calanka aad haysato maaha kii updatedkii maaha updated version maaha fine laakiin waxaad at some point inta isku tagteen aqoon yahaniintiinu jaamacadaha waaweyn ka soo baxay intaad fariisateen oo adiga kaliya la yaqaan inta kale sumad ma lahan obviously intaad fariisateen baad waxaad keenteen calan xidigu ku sawiran tahay ama shan xidigood aadaan ama 20 xidigood aadaan waxaadna igu tiri yukaad cami andamay waxaadna igu tiri xidigtaanu 4 diimood oo qalaad ayaa iska leh sidaas awgeed ma rabno xidigtiina waa kugu dhagan tahay markaas ma khaldanayeen mise waa saxsanaydeen hore okay so waxaad weydiinaysaa wax aan hore u soo samaynay oo soo saxnay waxaad igu xugminaysaa wixii aan samaynay 7 bilood ka hor 8 bilood ka hor saas rabtaan aad igu xugmisid maya waxaan rabaa inaan ogaado markaa xidigtaan qorayseen oo aad sawirayseen shanta xidigood obviously mushkiladu xidigtay ka socotay xidigtii baad keenteen idinkoo aqoon yahaniintii ah oo buwaagtii Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Isbaanishka xambaarsan baad timaadeen waa fariisateen hal xidig baad ka cabanayseen oo shan gees leh waxaad keenteen shan xidigood oo mid walba shan gees ay leedahay absolutely marka aan kaaga jawaabo marka waa maasantahay annaga waxaan nahay dad soo bartay saan hore kugu sheegaba wax la dhaho political philosophy and political theory political philosophy macnaheedu waxa weeyaan marka aad rabto wax inaad soo bandhigto waxaa la isticmaalaa ama laga sameeyaa harvesting wax la dhaho waxaa fikirka iyo opinionka laga qaataa shacabka aad rabto inaad hogaamiso waxaa la fiiriyaa waxa la dhaho survey fikirka xidigaha markii ugu horreysay samaynay waxaan ugu talagalnay inuu noqdo phase 1 waayo marka aan rabno shacabka insaanka ah ee Soomaaliyeed ee intooda badan ay yihiin dadaan waxba akhrin waxna qorin marka aad u soo bandhigto wax drastic ah oo ka bedelan wixii ay yaqaaneen waxa imaanaya in ay kugu timaado caqabado fara badan oo aadan qaadi karin waxaan ugu talagalnay inaan samayno phases wax la dhaho phase 1 phase 2 phase 3 and so on hatta marka aan dooda soo marigna haddaad fiirsato doodaha aan banaanka keenayno waxay leeyihiin gradual shift oo macnaha in kan la keeno ayaan la wado
lagu dara kan ayaan la wado lagu dara kan si dadka macnaha loogu sameeyo education waxaan nahay macallimiin waxaan nahay dad waxbara dadka waxaan ugu talagalnay dadku inay wax bartaan soo saad u aragtay calanka kow waxaan samaynay xidigihii caadiga ah oo Soomaalidu ay taqaanay oo 5 ah iyo mid dhexda ku jira xidigtii shaydaanka yes absolutely midii shaydaanka waa quraas ku qorana meesha ujeedadan ugu qorana waxay ahayd in aanan samaynin drastic change oo aad og tahay qofka bini aadamka wax cusub hadaa ka intid waxa laga yaabaa markiiba inuu kula dagaalamo waxa laga yaabaa inaanan helin chance-kii xataa lagu dhageysan lahaa laakiin waxaan helnay maadaama aan xidigii wadno waxaan helnay wixii wax ka duwan doodeena markaas hadda dhageysan lahayd waxay ahayd hal xidig 5 xidigooda ka badan wadan baan xidig siin waa la qaatay dhageysan ku dhameeyay ninka la yiraahdo xaafidow markii taasna la ka qaatay waxaan qornay Allah oo u qoran digital ma xidigaha la joogno xoogaa ya xidigaha rabeen la joogno xoogaa shanta xidigaha la joogina may waa calanka dhan rabeen ku sharxo xidigihii marka time markii la gaaray ya shay saga ka dhaxyaan midba mar aan qaadno Allah iyo waa imaan marka taali jawaabaya so waxay ahaayeen gradual education wax barid tartiiba oo raba shacabka Soomaaliyeed kow in waxay ay yaqaaneen looga bilaabo calankii la bedelayaa wax yar baa laga bedel waxaa timid marka in la yiraahdo bishan ku soo darna hadda waxaan kugu raacay bishu inaysan ahayn calaamad islaam annaga waa ognahay bishu inaysan ahayn calaamad islaam laakiin shacabka Soomaaliyeed waxay u yaqaanaan bishu inay tahay calaamad islaam dadkooda inta badan meesha ka timid ma yaqaanaan Uthmaaniinta inay sameeyeen yaqaan adigu research aad sameeyay you did your homework marka bini aadamka marka tartiib inaad wax gelisid waxa loo gariyaa si gradual hadda tiraadid hal mar aan wixii dhamaa gelinaya ma awood uma lihid inaad gelisid anaguna waxaan dad soo bartay wax la political philosophy and political strategy so that is qaacidada aan ku socono waana maasan okay fine you see mushkilada meeshan ka jirto waxay tahay waxa dadka rabteena ka talaashaan baa tiraadeen daawo u qaato waa idin badinaynaa ko waa ka soo gudubnay waa ka soo gudubnay waa ku dhageystay fadlan hadda waa ka soo gudubnaa inaad tiraahdo daawo u tahay hadda waxa la taagan yahay ka hadal waaqican caadiga waana ku sheegay waxaan ka wadi adaa ka gudbay aniga baaburkayga hal geeri buu ku socdaa tartiib buu socdaa adu 90 mile an hour baa ku socotaa because waxa ku saaran maxaa la lahaa engine VA the challenge relax okay I'm relaxed thank you I like that waxaa jira waxaad tiraahdeen waxaan waa diimo qalaad 10 jeer baad ku celisay xidigtan waxa iskala 4 diimood oo kala duwan xidigtan inaad dadkii ka talaashaan oo aad kala dagaalantaan aqoon-yahaniintii maadaama aad tiin wasa hadalka u dhigtay and I don't doubt for 1 minute inaad aqoon leedahay Allah kuu zaa'idiyey waxaan ku soo diray jaamacadaha meeshan galay xataa waxaan ku soo diray numberkayga ardanimada wali ma soo cadeyn research ma sameyn funny enough inaad sidaas tiri jaamacadaadii baan wacay because waa ogaa interviewnu maanta dhacay shalay keliya haystay email baan u diray weekendii ciduma shaqaynaynin waxaana ku yiri waxaan daba socdaa magacan qofka iska leh iyo numberkan ma ii sheegi kartaan waxay ugu yiraahdeen is confidential waxaan ku yiri can you at least ma ii sheegi kartaan inuu ninkaanu jaamacadan dhigtay waxay igu tiri we cannot confirm can you deny baan ku yiri no way igu jira telefonkana waa igu dhigtay that is conversation kan dhexmaray so I did done some homework taas macnaheedu maaha jaamacadda inaadan dhiganin inaad dhigatay ma ahan waxay ka dhigan tahay qofka ila hadlay siduu ila hadlay waxa laga yaabaa bad mood inay ku jirtay good mood inay ku jirtay policy-gooda inuu yahay all that I respect أنا كوسينا يلي way معنا ميل كلود أنا want you إنا research كاساس ميسد واحد ضد بدنا وسم ديجو جوجو يقانا أنا واحد كوسي كذا authorization إنا إن لوجسي records كا حديد أدربتنا واحد records كي كجيران page كيجا وكبار كذا actually أنا واحد كوسي ترى إنا ترى أقويهم باش يقطعين أي ترى كودي ده وأنا ليست واحد برتاي respect me هذه أقويهم باش waxyaalo badan oo kale aan ku oran karaa laakiin waxaad ku soo dadaasho soo baratay inaan ka inkiro waxa weeye waa dullinimo weeye igamana laakiin waxaan kuu sheegay aniga iyo jaamacadda waxaan soo dhex maray waxay recordkaaga way diidan inay ii sheegaan and that is data protection policy-gooda you know all the red tapes whatever it may be forget go ahead xidigihii bay iga dhigantahay xidigaha kama maarmeen marka aqoon-yahankii Maraykanka iyo Canada iyo ka soo bartay
wax meesha la yiraahdo Spain baa dalkii dib ugu soo noqday dabadeedna hal xidig buu nagala dagaalamayo 4 diimood ay leeyihiin wuxuu noo keenay 5 xidigood marka kugu lix baad noo keentay xabad gudaha ku jirta oo la dhaho Star of Unity 5 banaanka ku jira oo taagan the 5 Somalis waa gartay marka mushkiladu halkan waxay tahay meeshii aad xidigta kala dagaalami lahaydeen waxaad noo keenteen xidiga kuwii ka badan marka diimihii oo iska batay baan u qaadanay dadku siyaabo kale u fasiri karaan waxaadna hadalkaaga ku jiray inaad tiri political philosophy aan bartay waxaan doonaynay dadka inaanan drastic change ku samaynin tartiib aan u bedelno walwalka lagaa qabo waxa ay tahay inaad ujeedo kale iyo diimo kale iyo dhaqamo kale iyo afkaar umad kale aad fulinaysid ayay u tahay dadkan Soomaaliyeedna aad doonaysid waxaad kaga kaluumaysatid oo ku soo dhawaysid maxaad arrintaa ka oranaysaa thank you very much runtii waxaad moodaa mahmaahda jirta luqadda Spanish ko tirada no hay más ciego a quien no quiere ver y no hay más sordo a quien no quiero oír qofna kama dhagala ama dhagoola kama qofka rabin wax maqlo qofna kama indhala qofka rabin wax macnaha taasan ka wada waxay tahay su'aasha aad weydiisay waxaan ka jawaabaa 100 mar haddana waa kugu celinaya annaga waxaan leenahay philosophy iyo qaacido waxa noo qoran waa wax banaanka yaala qofkii nagu raacaya iyo qofkii nagu diidaya dadkii Soomaaliyeed waa nagu raacin waa na soo dhaweeyay haddii aan nahay dad khaa'imiin ah oo la soo dirsaday ma dhahneen dastuurka islaamka rabnaa kitaabka jaamaca lagu xukumo qof la soo dirsaday kama suurta gasho in uu yiraahdo diinta islaamka ayaan rabaa qaacidada islaamka ama kitaabka jaamaca ahana lagu maamulo waxay beeninaysaa taasi qof kasta oo aamina ama ku yiraahda asagoo caadifad kale ay hayso yiraahda nimankan banaanka laga soo dirsaday waa sidaas nin marka arintaas suurtagal ma waxaan rabnaa annaga waxaan aaminsanahay waxaan u taaganahay waxaan u ololeynaynaa kitaabka jaamaca inuu noqdo dastuurka Soomaaliya waa gartay dabcan su'aashaydii waxay ahayd hal xidig baa nagala dagaalamayseen 6 baad noo keentay xidigtuna shaydaan baa caabudo oo diimo qalaad baa iska leh 6 xidigoodna iga gudoomo aqoonyahankii Soomaaliyeed baan ahay adeer arrintaas waa la liqi kari laayahay bal laga deji ma haystaba hade waxaan ku iri marka ma waxaan ku iri qofku hadduusan rabin inuu wax maqlo qofna kama dhagala waxaan ku iri waxaan kula wadaagay macnaha marka hadda ila hadlayso aniga waxaan ku qaatay inaad tahay nin or at least to a certain degree educated macnaha wax fahmaya strategy-ga aan isticmaalayno dad wax bartaanahay iskama socono hawtal hamagmanin habkan kuma jirno strategy-ga aan isticmaalayno waxa weeyaan dadka inaan wax barno maantay marka aan rabo in aan wax ku baro waa inaan wixii meel ku dhow ku geeyo kadib kaasii wado tartiibina wax ku baro laakiin mar labaad ma deli karo maantay xidigahaas aan leenahay waa calaamad shaydaan calankeena kuma yaalaan calanka talo ku nool kuma yaalaan waxa ku yaala wixii wax ka duwan meaning waxay taas ku tusaysaa inaan ka guurnay markaan ka guurnay ayaanan bilowna xidigta inaan ka hadalno haddaad waraysiyaalkaygii dhageysatid iyo timeline-ka aan isticmaalnay waxaan ahayd phases phase 1 astaanta phase 2 calanka phase 3 starska phase 4 calanka heestiisa ilaa phase 5 6 7 waa soo socda kuwa kale to fara badan marka hadda waqtigan xaadirka oo aad maanta i xukumayso oo aad leedahay diimo kale noo keenteen xidigta noo baseen ma haysano xidigtii ma isticmaalano xidigtii calanka aan haysanana ama aan rabno inaan Soomaalistinana kuma taalo hadda soo dhawo goorma ayaad bedesheen calanka xidigii 6 aad ku qorateen goorma bedesheen timeline-ka ku taala Facebook-gayga page-ka I'm asking you give a rough idea I'm not able hadda macnaha exactly ma ku sheegi karo date-kii because out of my date waa khalad weeye because maskaxda ma ku sheegi karaan laakiin waxay noqonaysaa hadda page-ka aad tagtay talo ku nool ama page-kayga Sufyaan Sheekh Axmed aad tagtay waa ku taala markii la bedelay marka sanad ka hor meeyay mise 6 bilood mise 2 sano ka hor campaign-ka waxaan ku jirnaa 2019 kan bilow so waxaan dhihi karnaa relatively waqti dhow bay ahayd waxaan leenahay waxa la dhaho 4-month strategy 4 biloodba subject cusub in laga hadlo hadda maxaa soo wadaan subject-kii kale muxuu yahay cusub subject cusub aan soo wadno waxa weeyaan sida aad meesha aad joogto laga yiraahdo
waxa waaye iska sug waa soo imaanaya. Okay, Sufyaan waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo saacad iyo 40 daqiiqo hadlaynay waraysigan asagoo dhammaystiran lama soo dayn karo hal mar uu badan yahay dadkuna maaragtay wax inta waqti uma hayaan waxaan kaa ballan qaadayaa inaan anigu intaadaan mar ku dhamaystay inaan anigu shakhsiyan ama qof ani ila shaqeeya uusan editing ku samaynin codkaaga la jarinin waxaa tiri aan la hareer marinin sidaan u tiri loo soo daayo laakiin waxaan rabaa inaan ogaatin markaan soo daayo waxaan dad fara badan oo Soomaaliya oo waxaa jira Facebook iyo YouTube leh wixii way soo jarjarayaan intay rabaan bay soo qaadanayaan waxaan garan karaa inaad ila fahmaysid inaanan ka cudur daaranayn inaan dadka mas'uulna ka ahayn waxna ka qaban karnin waxaan mas'uul ka ahay waxaan soo geliyo Cabdixafiin Maxamuud Jaamac YouTube-kiisa waxaan soo geliyaa mas'uul ka ahay waxa halka ku aragtid ana ay soo qabsanaysaa haday wax dhibaato ka jiraan haddii ay sidii aan ku ballanay ay tahayna oday Soomaaliyeed oo aad marti waa u hayd weeye aan geelna ku qalinin waxa weeye waa soo dhaweynaa David waa mahadsan tahay aniga waxaan qaatay precaution kan qaatay camera hadda ii xiran waxaa tiri oo dhan ii duubaysa adiga wixii aad tiri ama aan ku wada hadalnaan mas'uul iga tahay wixii qof intuu jabiyay ama dhinac kale ka bixiyay of course adiga mas'uul kama taas kuma haysto laakiin adiga exactly haddii aad bedesho hadalkii aan ku wada hadalnay oo sida caalamiga oo jirta wariyuhu intuu wuxuu rabo la baxo meesha leedahay waa qaldan tahay annaan ku leeyahay waa sax isku aadisid taas adaan ku haystaa maya waxa taas kaga buskoonaysaa waxaan ku eray waxa channelka Cabdixafiin Maxamuud Jaamac soo gala anaa ka mas'uul markaan sii daayo uu baxo cid kale waxay qaartay anu mas'uul kama ihi laakiin adiga taas ma ku weydiinayo adiga waxa kaliya oo mas'uul ka tahay waxaan kaloon ka rabaa waraysigan oo macnaha aniga waxa ii duuban facekaaga bis hadda ii duuban camera ii xiran laakiin kayga ma ii duuban in haze waa so waxaan ka rabaa in aad ii samayso inaad ii soo dirto exactly interviewgo complete ama aad ii sheegto meelaan ka heli karo hadda live ma ku jirno waxaan samaynayaa xogaa ima fahminin waxaan ku yiri markaan channelkayga soo geliyo asagoo complete aan soo geliya isku dayaya hadduu laakiin qaadi waayo uu bato stages baan u soo goynaa dadkana waa signpost garaynaa part 1 part 2 so overall waxa weeye waxaan ku wada hadalnay oo hadda hadalkeena sheekadan ay ku jirto ayaa ka mid ah laakiin iyo waa ay khiyaantay waxay ahayd inaad ii sheegtay inaad duubayso imaada sheegay maxay khiyaantay no that is a precaution aniga waxa waaye waxaan ku ogaa inaad tahay nin caalanka taageersan waxaan diidanahay hadhow tala ku nool ideas xaalan ka doodnay waa fiirinay waxa aad u taagan tahay iyo fikirkaaga adiga aan baaritaan kugu samaynay waxaa noo soo baxday inay macquul tahay inay caadifad jiri karto go'aankana waa qaatay waraysiga inaan ku siiyo therefore waxaan u samaynay security reasons inaadan hadhow wixii aan idhi waxaan ahayn inaadan soo bandhigin waana maasanta mar haddaadan u socontaas wax dhiba kuguma hayso laakiin xaq bay u lahaa inaad ii sheegto soo maaha ilaa anigu kuma khiyaanana balaadkan waa duubay waaye no waxa waaye adiga waxaad duubanaysaa imagekaygii anna kaagan duumanaya it's a win-win situation don't worry about ma gartay anigu waxaan rabo iyo waxaan kaa waraysanaya waa kuu sheegay laakiin adigu iima sheegin in ay duubanaysid aniga dhegayso waxa kaliyahoy bannaanka imaanaysaa only haddii uu yimaado waxa la dhaho inaad editing ku samaysid xataa editingka ma aha editing inaad ku samaysid in a manner that actually makes bias your side haddaan aragno taas markaasaan bannaanka soo dhigaynaa laakiin haddii si caadi aa u samaysid we don't have in fact marka ugu horreysa soo gelistaan delete garaynaa haddii ay noqoto taas anigu hadda waxaan recording way duuban yihiin anigu waxaan tirtirayo ama luminayo ama aan goynayo ma jirto laakiin waxaan ku yiri waxaan xaq kuugu lahaa saa adigu xaq iigu lahayd kuuguna ixtiraamay inaan xaasaskaaga ka hadlin inaad tiraahdo Cabdixafiido waa anna waa ku duubayaa la soco wax ii qarsoonaan ku oran lahaa hadda ka duwana ma jirto waxaan ku yiri ma ku oran lahaa laakiin xaqaygii baa qaaratay laakiin waxaan rabaa inaan ku ixtiraamo cafis baa ka tahay ما كسوعان كوير وحاس لي ملاد waxaan jeclaynaa inta ku soo gabagabeeyo oo ku mahad celinaya oday Soomaaliyeed baa tahay Jordan waxay ku bilaabatay si heated ah
laakiin markii ruuxaantii ay kaa degtay waa is helnay boqolkiiba boqol ku mahad celinayaa waxaan jeclaa kale adam siina last word waxaan jeclaa kale mahad celiyo techniciankeena weyn ama engineerkeena cabdifatax cali sharwac asagoo halkan ila jooga waxaan si hagar la'aan ugu mahad celinayaa wariye cabdulqaadir cumar cabdulle oo asagu gundhig u ahaa barnaamijkan inuu baxo allah karaameeyo sidoo kale waxaan mahad celinayaa farsamayaqaankeena weyn baashe allah ku karaameeyo ugu dambeyntiina waxaan mahad celinayaa walaalkay sufyaan iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee dunida daafeeda jooga ee barnaamijkan daawanaysa waxaan ka codsanayaa ka bixinaysaa barnaamijyadan inaynaan ninkaan aflagaadaynin laakiin hadday aad wax ka khaldan yihiin aad u nasteexaysid aan la iscaayinin laakiin soo dhawow sufyaan gabagabe marka ugu horeysa cabdixaafid waa mahadsan tahay ka doonnay programka inkastoo macnaha sidii aniga aan malaynay uusan u dhicin laakiin hadda laftirkeeda wax dhiba kuma qabo doodsay u dhacday waxaan rajaynayaa in adiga iyo intana dhegeysan doontaba ay u tahay informative interview oo ay ka faa'iidaystaan waxaan annagu u taagannahay haddaan nahay reer ku nool inaan u ololayno bedelidda calanka astaanta tirtiridda haybta koorka dib u sixidda taariikhda soomaaliya waxaan marti u ahaa maanta cabdixaafid aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaa kulanti dambe thank you very much aad baa umahadsan tahay daawadeer intaas ayaan ugu soo gabagabeynaynaa waxaan jecelahay dadka qaarkood mararka qaarkood dadka amnigooda inay khalkhal geliyaan isku daya barnaamijkanu ma aha barnaamij aan ugu talagalnay ama ujeedadiisu ay ahayd dadka la yiri waa la dilay abu sufyaan inuu dilay abu sufyaan beer inuu dilay anigu ma ogi inay dhinteen kama warqabo anigu eedeen asagoo ma soo jeedinaya dadku waxay lahaayeen oo keliya idin sheegay ninkaas soomaaliyeed wax anigu eeda oo aan u hayo ama aan ku ogahay ama caddayn ah inuu dembi galay haba yaraatee ma jirto I want you to be witness marka saas oo la socda haliis nabadgeliyo guul iyo gobonnimo idin rajaynaynaa saaxiib salaada calanka saarde waxaan ku soo gabagabeynaynaa haddii ilaahay yiraahdo ninkaan waa naga diidan yahay astaanta calanka soomaaliyeed dabadeedna halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna thank you very much ya salaanta saar salaanta adaa noo saaraya adiga noo saar salaanta adaa mudan thank you very much thank you my brother